السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبي السود هذا دمانتين ومركلة محاضرين كأني هايبت أو عاو هدي لا إدمو هالكان أنكسي عن بقايا دون هدي لا هي إنه رال نقضه عاو برنامج كوحنا واحد لنا إنه لياش كل الدونا الصوماليا لقى صوب الله وكون يسديد بقول يوسعاشن كي هدي لا إدمو أنا عاو برنامج كأنه مرتيا أو نلا wadaagi doonaan lecture ama muxaadaro ku saabsan mawduucaas aan hore kusoo xusay waxaan la wadaagi doonaa Dr. Cusmaan Geedow Caamir oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed haddii aan wax yar aan idinka siiyo introduction doctorka caawimtida sida hore u sheegay magaciisu waa Dr. Cusmaan Geedow Caamir waxa uu ka soo baxay jaamacadda ummadda Soomaaliyeed darajada koowaad ama baajka cilmiga beeraha ayuu ka qaatay shahaadada labaadna waxa uu ka qaatay biogeography shahaadada saddexaad ama PhD-na wuxuu ka haystaa ecotoxicology oo uga baxay dalka Jarmalka waxa uu ka soo shaqeeyay wasaaradda beeraha 1982 ilaa 1991 waxa uuna ku takhasusay culumta shimbiraha iyo duurjoogta kale ee Soomaaliyeed waxa uu kaloo yahay aasaasaha iyo agaasimaha Somali Wildlife and Natural History Society waxaa jira professorka cilmi baarisyo ama publication oo heli kartaan baraha wax lagu daabaco cilmi baarisyada haddii aan hal iyo laba aan ka xuso waxaa ka mid ah Silent Victim of Somalia ayaa ka mid ah ciwaankaasi oo aad heli kartaan haddii la idmo ama aad geli kartaan ama haddii magaca doctorka aad gelisaanba aad heli doontaan waxaa kaloo ka mid ah ciwaanada oo wax ka qoray ama publicationka doctorka caawa martida inoo ah Wildlife Trade in Somalia iyo mawduuc kaleeto oo aslan la yiraahdo laga badane bushland biodiversity assessment marka mawduucyadaas iyo kuwa kale ayaa ka mid ah maxaa la yiraahdaa ishag haddii la idmo wixii aan ka tagana professorka haddii ay jiraan asaga amaba noo dulmari doona waxaan rabaa professorka inaan ku soo dhaweeyo macaawi maxaa la yiraahdaa ishag madasha haybad dhammaan ka soo qaybgalayaashana qof kasta mansabkiisa ayaan ugu mahadcelinaynaa waqtiga noo soo horteen hadduu eebakaraali noqdo professor waxaan kugu soo dhaweynayaa lecturekaaga waxaad haystaa 30 daqiiqo haddii ilaahay idmo 30 daqiiqo wixii markii ay ka dhiman tahay 5 daqiiqo ayaan ku xasuusin doonaa haddii eebakaraali noqdo kadibna su'aalaha ayaan u guda geli doonaa ama discussions dadka ka qaybgalayaasha waxaan ayagana aan xasuusinaynaa inay qofkii su'aal qaba oo ku weydiiyo ama ra'yi qaba inuu 2 daqiiqo ku soo koobo uusan ka badanin si dadka meeshan ku jira ee tirada badan la dhamaanteed aan wada gaarno Dr. Cusmaan Geedow Caamir ku soo dhawow barnaamijkeena caawi iyo madasha haybad 30 daqiiqo haysataa haddii markay 5 daqiiqo u dhimantaa aan ka dhex galane waxa waaye iga raali noqdo okay mahadsanid aad iyo aad baan idinkaga mahadcelinayaa marka ugu horeyso abaabulka ama diyaarinta haybad iyo maamulaheeda Dr. Maxamed Doodisho in uga mahadcelinayaa martiqaadka ay igu fidiyeen waxaan kaloo aan salaamaya muxuu ahaa dadkana dhageysanayo qaybta ka mid ah marka waxaan rabnaa bal inaan xogaa yar ka nasano wax badan baan siyaasadda aan ka dhageysanaynay muxuu ahaa meeshaan aan rabnaa marka inaan ogaano bal noolo kale inuu jiro oo bini'aadanka ka baxsan lagu mashquulsan yahay inuu jiro marka environmentigii iyo duurjoogtii iyo waxyaalihii ku jiray inaan bal wax ka hadalno si dadkii loo helo muxuu ahaa dhalinyaro ku takhasusta waxaan annaga waanu sii duqoobaynaa aqoontanina waxay u baahan tahay in la sii hayo in wadankii la geliyo in dib loogu soo celiyo marka sidaas awgeed waxaan rabaa bal caawa inaad igala faa'iidaysataan dhalinyarada badan halkan ku jirto siyaasadda u dhuundoloosho inay ku darsadaano muxuu ahaa dhinacyada kaleeto ee professionada ah inay wax ka bartaano waxaan share garaynayaa PowerPoint oo aan ugu talagalay xafladan marka wax yar isugu waan soo kicinayaa ma aragtaan
si fiican oo u jeednaa. marka waxa waaye PowerPoint-gani waxa waaye title-kiisu English uu ku qoran yahay, laakiin af Soomaali baan iskaga hadlaynaa. waxaan ugu talagalnay in dhalinyarada ay ka faa'iidaysato ay uga faa'iidaysato muxuu ahaa aqoonta kale siyaasadda oo keliya aan Soomaali oo dhan anaga aanu ku mashquulin, ee aanu fiirino deegaanka aan ku noolnahay iyo siduu ahaan jiray iyo siduu isu bedelay iyo wixii ku noolaan jiray iyo wixii ka dabar go'ay inaan wax ka ogaano. adduunyaduna waxaan idiin soo marinayaa chronologically wax taxan baan rabaa inaan idiin tuso. ka labaad haddii aan u tago presentationkeygu outlinekiisu wuxuu noqonayaa in marka horeeto la fahmo waxaan la yidhaahdo kala gedisnaanta noolaha ee jira Soomaaliya marka bini'aadanka laga reebo. kadibna waxaan u gudagelaynaa 1850 ilaa 1960 waxaan u qaatay inay yihiin colonial era, wixii ka dhacay waddankani ama deegaanka hala xaalufiyo ama duurjoogtii ku jirtay hala dabargooyo waxa ay ku dhacay baan ka hadlaynaa. qodobka saddexaad waxaan ka hadlaynaa 1960 ilaa 1990 civil society-gii, civil government-gii iyo military government-gii maxay ku kordhiyeen, maxayse ka qabteen deegaanka Soomaaliya, sideese markaasi wax u maamuli jireen. dhalinyaradu ha ka faa'iidaysato macnaha wixii horey loo soo qabtay si ay u fahmaano waxa iyaga u dhiman. marka waxaan kaloo rabaa inaan ka hadlo 1991 ilaa dowladdii muxuu ahaa transitionka halkay ku dhammaatay, maxaa ka dhici jira waddankan, dhibaatada duurjoogta ay la kulantay maxay tahay. waxaan kaloo ka hadlayaa 2012 oo dowlad la ictiraafsan yahay waddankan ka dhalatay ilaa iyo maanta maxay qabatay dowladdii, maxayse samaysay, horumar maxaa laga gaaray, caqabada maxaa jiro iyo wixii markaa jiray. marka haddii aan u galno what is biodiversity ama maxay tahay kala gedisnaanta noolaha, sidaa la soconaba deegaanku wuxuu ka kooban yahay wax nool iyo waxaan noolayn. wixii noolaa baanu fiirinaynaa. waxa nool waxay u qaybsamaan wax biyo ku nool iyo wax beriga ku nool. marka labadaaba marka waxa waaye bios waa Greek iyo diversitad oo ah muxuu ahaa Latina oo laisku qabtay. ereygaana wuxuu soo baxay uu ku soo kordhay aqoonta adduunyada 1980gii 85 ayaa markii ugu dambeysay ee la ikhtiraacay oo la sameeyey ayuu noqday. qeexitaanka maxaa lagu qeexaa marka? qeexitaanku waxay tahay kala gedisnaanta noolaha ee buqcad ama place ama meel marka la fiiriyo. haddii aan soo qaadan hal gobol oo Soomaaliya ah, imisa noolo oo kala gedisan oo geeda ah iyo xayawaan ah iyo bacteria, funga, waxaasoo dhan si loo tiriyo oo loo ogaado faa'iidada iyo quality-ga ee markaas meesha ay leedahay. marka biodiversity-na waxaa la fiirinayaa the number, tiro xayawaanada imisa waa tiradooda, noocyada ay kala yihiin, genetic variationka ay leeyihiin maxay tahay, strong genetic oo population ah ayaa meesha ku jiro. waxyaalahaasoo dhan ayaa la fiirinayaa. marka si aan u fahamtaano waxaan rabaa inay idiin qeexo waxa la yidhaahdo species. ereyga xayawaan, hal xayawaan haddaan soo qaadano, libaax, maroodi, muxuu ahaa dawaco haddaan soo qaadano, waa each one species waayo. oo deerada, cawsha waa species. specieskaasi macnihiisuna waxay tahay waa koox oo isku nooca oo awood u leh inay tarmaano, tarankoodana uu noqdo taran muxuu ahaa oo sii tarmi karo oo fertile offspring soo bixin karo. marka taasi waxayna tusinaysaa haddii xayawaanadu ay tarmaan laakiin aysan offspring oo fertile ay soo saaraynin, ma aha species sii jiri karo noloshooda oo adduunyada ka ciribtirmayo. habitat waxaan ka rabnaa oo keliya inaad fahamtaano, maadaama deegaankii, dhulkii iyo xayawaankii isku nool yihiin, labadii xabo oo deegaankii
ee uu ku noolaa habitaadki waa meesha xayawaanka uu ku nool yahay ee nolosha uu ka helo macnaha noloshiisu ka helaa wuu ku tarmaa wuu ku bulaalaa gu iyo jeer iyo jilaal iyo wax waliba meeshaas ayuu ku nool yahay marka habitatne noocaas ayaa la yidhaahdaa adduunyada sidaa la socotaan wixii biologiga soo qaatay waxaa jirto nin la yidhaahdo Carol Linnaeus oo muxuu ahaa 1758kii soo saaray muxuu ahaa binomial in uu magacaabo uu magacyo u sameeyo xayawaanada adduunka iyo dhirta iyo geed walba marka waa la soo aruuriyey waagiisi wuxuu sameeyey ilaa 10,000 oo wuxuu sameeyey oo xayawaano iyo geedo isku jira ayuu buuggiisa uu ku qoray marka annaga maanta adduunka markaan fiirino inta xayawaan ee magacyo inoo leh waxaa lagu qiyaasaa 1.5 ilaa 1.75 milyan inta aan la magacaabin ee magac lahayn oo aan la garanaynin waxaa ka mid ah 3.5 ilaa 98.5 millions ayaan ilaa hadeertaan la qeexin kuwaasi wax badan ayaa ku jiro Soomaaliya totalka marka la fiiriyo waxaa lagu qiyaasaa 200 milyan oo xayawaano oo kala gedisan insectiga iyo bacteriyada iyo fungi waxaan ha u badnaadaan laakiin muxuu ahaa xayawaanada waaweyn wixii si waaweynba way sii yaraanayaan tiradooda laakiin marka ay sii yaraadaan oo xayawaano yaryar ay noqdaano ay aad u sii tiro badanayaan macnaha tirada conventionka waxaa jiro wax la yiraahdo Convention of Biological Diversity ee la sameeyey 1992 markii lagu shiray Rio de Janeiro shirkii looga hadlayay muxuu ahaa cimilada iyo adduunka looga hadlayay shirkaasi waxaa ka soo baxay 3 conventions ayaa ka soo baxday mid ka mid ah waa midkan oo ah in la badbaadiyo kala gedisnaanta noolaha ee adduunyada ka kalena wuxuu ahaa waa isbedelkan cimilada ama climate change-ga wax loo yaqaano iyo land degradation convention asagana oo markii dambe muxuu ahaa meesha ka soo dhashay marka anaga hadda aanu ka hadlaynaa oo keliya biological diversity-ga ka jira Soomaaliya ujeedada conventionka loo sameeyeyna waxay tahay oo keliya in la badbaadiyo kala gedisnaanta noolaha sababta loo badbaadinayo waxay tahay oo ah number 1 waxa waaye waa quudkii la cunayay wixii la cunayay hugii baa ka imaanayo daawadii baa ka imaanayso bini'aadankii wixii dhismaha ka imaanayo wax waliba waxay ka imaanayaan deegaankaaga ay ka imaanayaan marka sidaas awgeed waa in la badbaadiyaa number 1 number 2 waxaa lagu heshiiyey sustainable use of its component in si aan dhibaynin deegaanka iyo duurjoogta iyo xayawaanada ku nool in muxuu ahaa iyagana si loo isticmaalo oo muxuu ahaa oo aan dhibaato u keenaynin oo generationka soo socotana ay ka faa'iideysanayaan waxaa kaloo lagu heshiiyey in lagu xisaabtamo faa'iidada ka imaan karayso ama ka soo bixi karayso genetic resourceska ama geedaha ha noqdaano sida muxuu ahaa medicineka geedaha medicineka ah ama xayawaanada ama funga maanta oo medicine la soo saaro waxay ku base garaysan tahay plants ay ku base garaysan tahay all of that waxaa laga rabaa inaad taqaanid wadankaaga genetic resourceska kugu jiro oo berito faa'iido kuu noqon karo kaasina waxaa laga rabaa in la helo equity sharing nimanka kambaniyyaasha ee waxaasi ka shaqaynayo iyo dadka community-ga ee agdegan ee yaqaana muxuu ahaa isticmaalka geedahaasi in laisla wadaago faa'iidada ka imaanayso waxaan rabaa inaan hal mar idin ku baraarujiyo waxa soo lumay adduunyada loss of biodiversity marka la yiraahdo 784 nooc oo xayawaano ayaa ka dhumay 1500 oo sano markii laga soo bilaabo ilaa iyo maanta wadan adduunka oo dhan ka dhumay UN reportigii ugu dambeeyay 2019 waxay qiyaasayaan 1 milyan oo xayawaan oo species ah inay khatar ugu jiraano inay adduunyada ka cirib tirmaano ya 2 qarni ilaa 3 qarni ee soo socoto waxaan ka hadalnay xayawaan
iyo habitatkii uu ku noolaa meeshii uu ku noolaa in ay muhiim tahay labadoodaba in laisku badbaadiyo si dadka maanta joogana uga faa'iidaystaan kuwa berita imaanayana ee uga faa'iidaystaan oo aan la xukumin marka waxaan rabaa inaad fahamtaano war Soomaaliya imisa ecosystem waxaa la yiraahdaa waa buqcadda biological community-ga ay iskugu imaanayaan ay ku nool yihiin iyagoo la falgelayo muxuu ahaa deegaankoodii la falgelayo marka imisa ecosystem ayaa Soomaali ka jiro waa muhiim qofku markuu uu fahmo habitatkii iyo xayawaanadii marka ay wuxuu samayn karaa planning iyo muxuu ahaa conservation ayuu samayn karaa iyo utilization inaa isticmaasho waxaasi markaas unbaa qorshayn karaysaa haddii aan fiirin waxaan leenahay waddankayaga siduu qani u yahay iyo sida aan uga ordayno isma laha you never believe waddankayaga inuu leeyahay Montana Evergreen Forest meel 24 saac oo green ah oo buuraley ah ayaa ku taala waddankayaga waxaa ku taalo meel oo muxuu ahaa buuraley ah oo qalalan oo geeda leh waxaa ku taalo meel oo lowland la yiraahdo ama coastal area la yiraahdo oo evergreen forest ah oo weligeed qalalaynin ya waxaan leenahay geed qodxeedka iyo muxuu ahaa dhul oo geed qodxeedku ku badan yahay ayaanu leenahay waxaan leenahay dhul coosla ah ayaan leenahay iyo geeda gaab ah waxaan leenahay dhul xeebeed aan leenahay 3,000 iyo horado kilomitir oo xeeb aan leenahay waxaan leenahay fresh water system aan leenahay oo aan muxuu ahaa kalluunka labada webi iyo harooyinka iyo meelaha balliyada oo dhan waa very important unique habitat ee xayawaanada kala gedisan ay ku nool yihiin oo markaa unique ay ku noqon karaan laakiin waxaa nagala rabaa bini'aadankii wuxuu isticmaalayaa ecosystemkii jiray ayuu isticmaalayaa si uu uga soo saaro production so saddex oo waxaan qabnaa oo production system ah oo wax soo saar ah waa mid waa reer guuraa sidaan anagoo dhanbo aan ka wada nimid oo ah wax xoolaha la daba socdo oo marba meeshii naq iyo biyo laga helo loo aadayo kuwa kalena waa beeraleyo marna waa roobkay ku xiran yihiin marna waraabay ay samaystaan wax soo saarka saddexaad waxa waaye waa kalluumaysi oo xagga xeebaha marka la fiiriyana aad ay u yar yihiin inagoo bini'aadankii ah ayaan waxaan pressure saaraynaa ecosystemkii oo jiray ayaan pressure ku samaynaynaa oo waxa waa geedihii aan ka qaadaynaa xoolihii baan aan gelinaynaa muxuu ahaa culays baan ku haynaa laakiin qorshe ma lihin plan ma lihin management ma lihin waxaan rabnaa muxuu ahaa in weligeennaba sida aan u noolaano ma suurtagelayso waxaan kaloo rabaa inaan idinku baraarujiyo livestock populationka ee Soomaaliya waa imisa waxay ka badan tahay dadka ku nool bay 3 jibaar ka badan tahay 51 million ayaa lagu qiyaasayaa xoolaha Soomaaliya ku nool 7 million waa geel oo keliya ya waa geel oo keliya intaasi iyo bini'aadankii maalin walba waxay rabaan waxay cunaanana cirka lagama soo saarayo waxaa laga soo saarayaa dhulka laga soo saarayaa dhulkiina waxa waaye ma dayactirayno mana ilaalinayno mana haynayno marka su'aasha maanta ii taala waxay tahay imisa geed iyo xayawaan ayaa horta Soomaaliya laga helaa markii aan sameeyay research oo buugaagtii iyo literature-kii hore wixii hore loo qoray waxaan ogaanay dhirta inay tahay waa qoraalkii Martin Tulin ee Uppsala University ayaan ka soo koobiyey waa 31,000 ya 3,100 iyo waxa waaye 3,165 nooc oo geed ah ayaa waddankayaga laga helaa 800 oo iyagaas ka mid ah waxay u gaar yihiin Soomaaliya hadaa adduunyada meel walba soo marto ma kama soo helaysid 800 waxaa ku jiri kara daawa ku jiri karto raashin baa ku jiri karo wax dharka laga samaysan kara ayaa ku jiri karto marka sidaas awgeed dadku waxaa laga rabaa inay fahmaan waxa hareerahooda yaallo si ay muxuu ahaa u isticmaalaan maamaliska ama naasleyda waxaa la qiyaasaa 170
iyo 6 xayawaan inay ku jirto 32 nooc ka mid ah waxay gaar u yihiin Horn of Africa oo markaan fiirino dhulka Soomaalida ya Ethiopia Djibouti Soomaaliya intaasi ay gaar u yihiin shibraha 670 nooc ayaa Soomaaliya laga helaa 10 ka mid ah meel kasta haddii aad tagto adduunyada ka heli mayso waxaan endemic la yiraahdo waxay endemic waa xayawaan oo aan wadan kaliya laga helo wadamada kalena aan laga helaynin geographically isolated specieska ayaan halkan ku taxnay amphibianku waa baribiyood baa la yiraahdaa baribiyoodku 29 nooc baa Soomaaliya laga helaa 4 ka mid ah waxa waaye adduunyada meel haddaad tagto kama soo helaysid reptileska xamaaratada waxay noqonaysaa 230 80 ka mid ah waxa waaye Soomaaliya ay u gaartahay oo aad iyo aad waxa markaan fiirin dhulkayaga qaleelkiisa iyo daraynimadiisa waxay ku tusinaysaa inta ku jirto oo endemic ah fresh waterka marka la fiiriyo 22 ama biyaha macaan webiga Jubba iyo webiga Shabeelle ilaha meelaha ceelasho waxa ka buuxo 22 nooc oo anaga kaliya wadankeena laga helayo mana garanayno inay dabar go'een iyo inay wali jiraan marinku waa wali question mark basaaran ma aanan qeexin laakiin 276 nooc ayaa wadanka laga helaa invertebrate haba taabanin kuwaasi marka waxay ahaayeen laf dhabarleyda kuwa aan laf dhabarta lahayn ilaa hadda waxay u baahan tahay qof aqoontaas leh oo waxaani soo saaro iyo macnaha ilma aragtada waxyaalaha ilma aragtada ah ee wadankayga ku nool nafsadooda waxay u baahan tahay qofkii soo saari lahaa all of this waa waxa dhalinyarada mustaqbalka laga sugayo tusaale ahaan haddaan idin siiyo dhirta Soomaaliya sida loogu kala fiican yahay gobolada waqooyi oo togdheer markaan ka bilaano waqooyi galbeed togdheer Sanaag Nugaal Bari waxa lagu og yahay 460 oo endemic species inay ku jiraan central regions marka la fiiriyo Mudug Galgudud Hiiraan Bakool oo la isku daray 215 geed oo meel kale aadan ka helaynin ayaa ku jirto marka southern la fiiriyo gedo iyo shabeellada dhexe iyo shabeellada hoose banaadir iyo jubbooyinka waxaan dhan la isku daranay 161 macnaha waxay ku tusinaysaa marba aan noorodku u socoto waxaa sii badanaya geedaha iyo xayawaanada ee Soomaaliya u gaar ah ayaa sii badanaya marka muhiimaddu waxay leedahay xageen ka bilaabaya badbaadinta xayawaanka xageen seere ka dhigaya xageen u ogolaanaya in la daaqo xageen u ogolaanaya in beera laga dhigto all of this ma hayna anaga markaan u galno 1950 ilaa 1960 maxaa dhacay sidaa la socotaano 1850 ilaa 1960 waxaa socday wax la yiraahdo colonial era waxay mashquul ku ahaayeen waxaan la yiraahdo trophy hunting in xayawaanada Afrika loo yimaado ee la ugaarsado madaxooda la qaato skinkooda macnaha haragii dib loo qaato wadamadooda la geysto oo museumada lagu quruxsado oo scientificii oo ninkii la dhahay Carl Linnaeus uu soo saaray in muxuu ahaa lagu apply gareeyo marka ninkii ugu horeeyay muxuu ahaa Soomaaliya shimbir qoro ama report oo Soomaaliya ka socdo qoro wuxuu ahaa Edward Bythie 1851 waxaana loogu magac daray shimbirta la yiraahdo Somali starling oo laga helo gobolada oo waqooyi waxa kale ku xigay in la yiraahdo John Spikey oo 1863 oo asagana loogu magac daray deero waa xayawaan deera loogu magac daray waxa kale ku xigay ninka la yiraahdo Carl Lewis Freihen von der Decker ninkani wuxuu ku dhintay Markabley meel la yiraahdo oo magaalada Baardheere 1865 waxaana loogu magac daray shimbiraha la yiraahdo quutaha ayaa loogu magac daray marka all of this nimankani waxay ahaayeen niman u yimid wadanka inay ugaarsadaano inay muxuu ahaa ururiyaano xayawaanada Soomaaliya ku jiro oo u qaataano museumadooda wadamadooda si aqoontii Carl Linnaeus uu bilaabay looga sii badiyo
oo loo sii wado ilaa iyo waxay soo gaaraysaa 1913kii ilaa 1922kii oo ninkii Sir Geoffrey Archer la dhihi jiray oo ka shaqeey oo muxuu ahaa governorka Somaliland ahaa oo loogu magac daray Archeris Larke shimbiraha dhuldegta ah oo loogu magac daray maybe waxaa kaloo jirtay export of charcoal ya oo talyaaniga uu daldalan jiray muxuu ahaa Europe uu daldalan jiray waagaasayto colonial era waxaas ayuu keenay laakiin intaan maxay keentay dhibaato maxay noo keentay dhibaatada ay noo keentay waxaa ka mid ah waxaa la dabargooyay xayawaano badan ayaa waqtigaasi dabargo'ay for example masawirkan waxaan rabaa inaan idiin tuso muxuu ahaa museumadii oo Europe iyo North America waxay Afrika ka aruuriyeen ama Soomaaliya ka aruuriyeen all of this waa Somali species oo laga aruuriyay oo particularly Talyaaniga aruuriyay Talyaaniga ka soo koobiyay marka Lepidoptera muxuu ahaa invertebrate-ka butterfly-gu ka qaatay wuxuu qaatay kuwii badda waa qaatay kuwii xamaaratada waa qaatay shimbirihii waa qaatay wuxuu qaatay muxuu ahaa naasleydi buu qaatay dibitaag buu qaatay xayawaan walba oo Soomaaliya laga helayay wuu qaatay wuxuu ku sharxaday museumadiisii ardadiisii iyo ilmihiisii wuxuu ka dhigayaa environmental conscious inay noqdaan annagan kuwa iyaga hareerahooda waxa ka baxo ma yaqaanaan maanta haddii aad tiraahdo imisa deero ama cool ayaa waddankeena ku nool ma garanayo laakiin markaa wareysato muxuu ahaa imisa gaariyo yaallo wuxuu ku leeyahay Land Cruiser BG Hebel kan ayaa yaalla marka waa nasiib darana haysato oo ah inaan annagii fahmi weynay waxa hareeraheena ku nool waxaa looga baahan yahay dhalinyarada inay waxaani ay ka aasaasaan aqoon ay ka aasaasaan cilmi baaris badan ka sameeyaan si loo helo muxuu ahaa management iyo planning oo ah sustainable way ee dhulka loo isticmaali karo xayawaankii ugu horreeyay ee Soomaaliya ka cirib tirma wuxuu ahaa first species lost from Somalia waa Iswaniis hartebeest waxaa loo yaqaanaa C wuxuuna ka cirib tirmay gobolada waqooyi 1895 ayuu cirib tirmay waxaana ay marar qaarkood ay leeyihiin waxaa ku dhacay cudurka oo muxuu ahaa rinderpestiga ama dabakaruub la yiraahdo ayaa keenay laakiin Ethiopia ku nool yahay oo annagu buu naga dabar go'ay mooyaane adduunyada kama cirib tirmin wali Ethiopia ku nool yahay xayawaanka noocan oo kaleeta oo cosmopolitan-tiga oo meel badan ku nool wax culays ma laha laakiin wax adiga endemic ku ah oo adiga kaliya ku gaara haday lumaano that genetic resource waa lumay soo ma noqonayo mana dibna loo mehelay xayawaankii ku xigay dhinaca waqooyi gobolada waqooyi waxaa ka mid ah muxuu ahaa wiisha oo iyadana 1921kii last record oo lagu record gareeyay Somaliland waxaa kaloo ku xigo elefantiga ama maroodiga in uu ka cirib tirmay waqooyiga Soomaaliya 1950gii oo ka cirib tirmay ugu dambeeyay hal oo lab ah ayaa muxuu ahaa 1950 ku noolaa Hargeysa agaarkeeda waata maanta ay leeyihiin maroodi jeex laakiin markii analyze gareeyo oo la fiiriyo waxa waaye dhibaatadu waxay ka timid dadkii reer guuraaga ahaa oo isu bedelay beeraley oo dhulkii geedihii iyo daaqii maroodiga ka qaaday marka waxaa kala go'ay muxuu ahaa koridoorkii uu xayawaankaasi uu Hargeysa iyo Ethiopia ama dhulka Soomaali galbeed uu ugu soo soconayay ayaa kala go'ay sidaas awgeed waxa waaye xayawaanadii meel cidla ah oon geed lahayn ma imaanayaan bal gumaystii muxuu nagu taray waqtigii gumaystaha muxuu nagu taray wuxuu nagu taray laba shay ayuu nagu taray wuxuu sameeyay protected area ayuu sameeyay waqooyiga waxaa laga sameeyay ka hore Talyaaniga ayaa ku horeeyay 1952gii ay waxay soo saareen sharci oo lagu ilaalinayo Bushbushla Wildlife Reserve waa meesha biodiversity assessment-iga aan ka sameeyay reportkana waxaa ka helaysin internetka available waaye Ingiriiska ku xigay 1955kii ay wuxuu sameeyay asagana Dalo Forest iyo gacan libaax maanta waxa shaqeynayo oo protected ah oo la difaacayo oo aan la geli karin oo aan la xalufin karin
ama la dabargoyn karin waa Dalo Forest iyo Gacan Libaax. inta kale waa open, wax oo wax ka qabanayo ama difaacayo ma jiraan. xayawaankan haddaan la difaacin meeshu waa ka guuraya. 1960 ilaa 90 waxaan leenahay waa dowladdii shicibka ahayd iyo tii militariga labadoodaba waa isku qabanay. maxaa socday waayo? waxa socday waxay tahay waa ka ganacsiga hargaha ayaa aad ugu badnaa xilligii 69 ilaa 60 ilaa 69 aad buu ugu tiro badnaa oo waxaa la dhoofin jiray shabeelka, la dhoofin jiray haramcadka, la dhoofin jiray deerada, la dhoofin jiray garnuug, geesaha oo xayawaanada oo wax walbo la arko waa la dhoofinayay. laakiin 1969 ayaa waxaa la sameeyey January 1969 ayaa dowladdii jirtay waxay soo saartay law on forest and fauna oo lagu mamnuucayo in muxuu ahaa laga ganacsado ama la dhoofiyo dhuxusha iyo muxuu ahaa iyo duurjoogto in laga ganacsado. sharcigaasi ayaa waagaa la soo saaray. marka waxaa la sii xoojiyey sharcigaasi 1971 oo la aasaasay National Park Agency ayaa la aasaasay oo dowladdii militariga ahayd ayaa aasaasay, uguna talagashay inay ku badbaadiso maroodiga iyo shabeelka iyo haramcadka oo mawaagaas si xoog leh loo ugaarsanayay. 1976 haddana waxaa la aasaasay National Range Agency hay'addii daaqa qaranka oo loogu talagalay inay daaqi iyo dhulkii nabaad guurayay ay wax ka qabato markii abaartii 74 iyo 76 ay dhacday. kuwaasi waxay keeneen markaa in lasoo propose gareeyo ama la ogolaado in waddanka laga sameeyo 17 national parks iyo 14 oo wildlife reserve. macnaha national park markuu la yiraahdo waa meel seera ah oo la gelayo laakiin aan waxba laga goosan karin, geedna laga goyn karin, xayawaankiisana la dili karin. laakiin wildlife reserve marka la yiraahdo meeshaas waa laga ugaarsan karaa, waana muxuu ahaa waa meel oo loogu talagalay in corridor looga dhigo national parkska ayaa corridor u tahay. marka labada xabo oo magaca la sameeyay oo shaqeynayay in the north and 2 in the south become a factional. waxa waaye Bush National Park oo ku yaalo southka iyo muxuu ahaa Arbawero ayaa waxay noqdeen 2 national park oo shaqeynayo. labada waqooyina horaan idinku sheegay waa Dalo iyo Gacan Libaax, Dalo Forest iyo Gacan Libaax. intaas shaqeynaysa. inta kale waxay iska ahaayeen wax warqad ku qoran. maanta markaa waxay u baahan tahay in dib loo nooleeyo oo qolo waliba markaa ay ka fikirto deegaankooda iyo xayawaankooda siday u ceshan lahayn. marka dhinacan bidixda markaa fiiriso waxaan rabaa inaan idinkaga taataabto waxyaalaha laga qoray Soomaaliya. 3 qayb ayaa muhiim ah. one waxa waaye British Somaliland oo Geoffrey Arch uu ka qoray 1936 ilaa 1961 4 majalo oo shimbiraha Somaliland ah. waxaa kaloo jiray John Ash and John Miskell nin la yiraahdo oo 1983 ilaa 1998 iyagana 2 buug ka qoray oo ka hadlayo noocyada shimbiraha iyo sida ay u kala degan yihiin dhulka Soomaaliya. waxaa kaloo muhiim ah in la ogaado oo la fahmo Florence University oo attached looga dhigay Somali National University iyaduna waxay samaysay publication aad u badan. waxaa si xoog leh uga shaqeeyay Simonetta nin la yiraahdo iyo Lanza oo 1958 ilaa 83 ka shaqeynayay Soomaaliya oo ururinayay waxyaalaha museumka Talyaaniga yaalo. marka checklist oo waxay sameeyeen oo Somali fauna ayay sameeyeen. haddaan idin tuso waagii eerahan oo muxuu ahaa dowladdii kacaanka maxaa dhacay. Elephant massacre waxa la yiraahdaa dhacay. waxaan waddankeena lahaan jirnay 1969 tirikoob la sameeyey 40,000 oo maroodi marka laga soo bilaabo muxuu ahaa webiga Shabeelle ilaa iyo Jubbooyinka. 40,000 oo xayawaan oo maroodi ayaa ku noolaa. 85 waxaa la record gareeyay Hiro. Soomaaliya waxay noqotay waddankii ugu horreeyay oo adduunyada muxuu ahaa in muxuu ahaa ivory trade ban la sameeyo. dadkii marka oo bilaabay oo muxuu ahaa mooshinka geeyey ay ahaayeen waagaasi.
waxaa kaloo naga cirib tirmay grevi zebra waxa waaye dameer farowgana waxaa ugu wardambeysay horta noocaani noocyo badan laba nooc ayaa wadna koonfurta midna waxaa goboladan dhexe centraalka marka kani waa kii gobolada centraalka laga helayay wuu ka lumay soomaaliya wuu ka lumay laakiin wuxuu ku dambeeyaa kenya iyo ethiopia rikoorkii ugu dambeeyey waxaan haynaa 1972 sawirkani waxaan ka soo qaaday germany 2015 maraa meesha tegin waxaa kaloo naga dhumay jiraaf ama geriga xayawaanka la yidhaahdo isagana waxaa ugu rikoor dambeeyey waxaan la yidhaahdo 2000 ayaa rikoorkii ugu dambeeyey ayaa la sheegayey marka xayawaano badan baa xilligan ayaa lumay waxaa kaloo lumay Somali Wild Ass ama gumburi ayaa loo yaqaanaa aerial survey oo la sameeyey 1978 ilaa 1980 wuxuu keenay 4,000 ilaa 6,000 oo African Wild Ass inay ku nool yihiin Soomaaliya inay ku nool yihiin laakiin right now ma jirto 2015 maran garawa tegey oo magaciisa iyo wixii dhaqdhaqaaqiisa aan raadiyey waxaa la sheegay inuu jiro 2 xabo oo loo malaynayo inay ay yihiin lab ay yihiin oo markaa meeraysanaya marka haddii 2 lab ah ay meel joogaano wax taran ah oo meesha ka dhalanaya ma jiraano marka we assume inuu xayawaankani Soomaaliya ka dabargo'ay asagana bal haddii aan galno waqtigii 91 ilaa 2012kii xayawaanadii awal waxay ahayd haragga unbaa laga qaadanayay ama geesaa laga goosanayay ama muxuu ahaa waxyaalaha iyaga ka mida ayaa la dhoofinaya laakiin xilligii civil warku u socday waxaa bilowday wax la yidhaahdo xayawaanka in la dhaqdaba oo markaas laga ganacsada sida hadda halkan aa aragtaano waxa waaye waa dirdir ama lesser kudu ninkan wuxuu siinayaa ilmo yaryar buu soo qabsaday caanuu siinayaa caano booruu siinayaa habitatkoodii buu kasoo bixiyey tarankoodii uu kharibay boksyadan u diyaarsaday inuu ku xareeyo uu dhoofiyo marka waxaa la sheegayay manaha kumanaan oo xayawaano ah in loo dhoofiyey wadamada carabta ah oo qaarkood ay baabuurtuba ay ku dhinteen markii 200 xab laga soo ururiyo baadiyaha waxay imaanayaan muxuu ahaa magaalada xamar waxay imaanayaan iyagoo haaf oo dhintay haafkii kale marka diyaaradda la saaro ay iyagana sii dhimanayaan waxaa kaloo jiro muhiim ah in 1997 deero bayra in laga qaaday Somaliland 50 xabo oo la geeyey muxuu ahaa dooxa laakiin maanta xabad kama noolo sababta waxa waaye habitatkii iyo geedihii iyo wixii ay physiologically ay adapt gareeyeen meeshii ma yaalo waxaa la gacana lagu quudinaa waxaa la siinaa muxuu ahaa raashin la kariyey wax la soo jarjaray aysan awoodin inay muxuu ahaa nafaqadii kala baxaano marka eerahana waqtigaana waxaan ugu batay muxuu ahaa ugaarti oo la soo ugaarsanaya la kaysanayo la dhaqaaleysanayo haddana iyagoo nool laga sii ganacsanayo oo la dhoofinaya ayaan umada qaarkood waxaa arkaysaa hoteelada in lagu haysan jiray oo lagaga dhigan jiray muxuu ahaa wax oo beti ah marka xayawaanadaas oo dhan markay deegaan ka soo baxaan waxaa lumaya tarankoodii lumaya sababta waxaa waaye under stress ay imaanayaan 2020 markaan fiirino dowladdii la aqoonsaday waxay isku dayday inay IGAD la shaqayso oo waxyaalo badan muxuu ahaa oo la sameeyo IGAD waxay samaysay biodiversity policy and protocol oo Soomaaliya ay saxiixday oo ay isticmaali karaan maanta federaalka iyo regional stateskuba ay wada isticmaali karaan waxay kaloo samaysay regional wildlife trafficking policy si looga hortago ka ganacsiga xayawaanada iyo waxaasoo dhanna way samaysay federaalkuna way saxiixeen marka maamul goboleedyada iyo federaalkaba way isticmaali karaan sharciyadan ama policygan ee la sameeyey waxaa kaloo la sameeyey wax la yidhaahdo data bank oo laga soo ururiyey geedihii dhirtii Soomaaliya oo waagii hore waxaan lahaan jirnay
meel dhirta lagu keydiyo oo herbarium ah kii wuu lumay dagaalka dhexdiisii aan ku luminay marka hadda waxaan la soo ururiyey image ama masawir laga soo qaaday herbariumyada kaleeto ayaa waxaa lagu sameeyey computerized system oo software ah oo data bank ah oo qof walba marka wuxuu raba ka arki karaayo ayaa waxaa lagu sameeyey wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa waa first data bank oo Soomaaliya oo flora ama fauna ama biodiversity laga sameeyey marka futureka insha Allah waxay u baahan tahay faunihii ama laf dhabarleydii iyo kuwii laf dhabarta lahayn waxaasoo dhan in la aruuriyo oo meesha la geliyo markii aan fiiriyey muxuu ahaa Soomaalidu waxaan arkaa in ay xoogaa yar uu jiro conflicting mandates of government institutionska xoogaa iska hor imaanayaan oo aanan la qeexin institution walba waxa uu isaga u leeyahay sida environmentiga muxuu ahaa duurjoogto wildlife departmentska muxuu ahaa marine coastal marine conventionska xitaa waxa waaye waa conflicting baa ka jiro oo yaa mas-uulka ah convention hebel yaa mas-uulka ah oo khusaysa lagama hadlin ilaa haddeertaan oo waxa waaye meelay iska yaalaan waxaa kaloo jiro la laayahay lack of independent authority for environment and biodiversity conservation hay-ad u gaar ah sida Kenyan wildlife-ka ay mas-uul uga tahay ilaalinta national parks-yadii iyo duurjoogtii meeshaas ku jirtay oo dadkii iyo bini'aadankana uga faa'iidaysanayaan waxaa kaloo arkaa wax la yidhaahda lack of right person to the right position oo iyada lafsadeeda ay noqonayso caqabad haysata maamul goboleedyada iyo muxuu ahaa federaalkaba waayahay in xilligan marka hadda aan taaganahay maxaa lumi kara waxaa ka mid ah haramcadka xayawaanka haramcadka la yidhaahdo sanadkii waxaa lagu qiyaasay 300 oo caruur ah in ay ka gudbaano badda cas ayna u socdaano muxuu ahaa dhulka carabta iyo far east asia all xayawaanadan waxay ka imaanayaan east african countrieska Ethiopia Somalia iyo Kenya ay ka imaanayaan marka waxaa la rabaa in la joojiyo xayawaanadan ka ganacsigooda waa khalad marka waxaa kaloo jiro shimbirkan la yiraahdo ash lark oo lagu magac daray John Ash oo ahaa nin khabiir ah oo shimbiraha aad uga shaqeynaya Soomaaliya isagana waxaa lagu daray 15 nooc ee adduunyada maanta joogto ka cirib tirmi karo haddii aan wax laga qabanin waxaa kaloo jiro Hirola antelope oo iyadana ugu dambeysay rikoorkeeda 1975 sawirradani waxaan ka soo qaadnay muxuu ahaa dhinaca Kenya Soomaaliya iyo Kenya xuduudka Kenya ay ku nool yihiin xayawaanadan marka Soomaaliya xaggeeda 1975 ayaa ugu dambeysay aragtideeda iyo wax ka qoraalkeedii sidaa awgeed waxaan filaynaa in haddii hadda la raadiyo in laba mid ay noqonayso in la hela meeshii iyagoo joogo oo weli ku nool iyo in ay ka cirib tirmaano badanaan waxaa loo badinayaa in ay ka cirib tirmayso sababta maxaa yeelay xayawaanadani waa xayawaano oo cawska cuno waxayna daba socdaan maroodigay daba socdaan maroodiga marka uu dhul daaqo oo geedaha jijibiyo wuxuu soo saarayaa dhul bannaan buu soo saarayaa dhulka bannaan baa waxaa ka soo baxaya caws jilicsan oo xayawaanadani ay cunaano marka haddii maroodiga meesha laga saaray iyaguna meeshu waxay ku noqonaysaa meel kayn ah oo jiqa aysan geli karin ay ku noqonaysaa sidaasayna u lumayaan haddii waxay raadin kaga taataabto muxuu ahaa waxyaalaha khatarta ku ah dhibaatada ku hayo muxuu ahaa kala gedisnaanta noolaha Soomaaliya waxaa ka mid ah population growth dadkii oo kordhay deegaanadii oo kordhaya jidadkii oo kordhayo poverty-ga baahidii oo badatay oo qof waliba markaa ama duurka iska aadayo oo iska soo guranayo wuxuu raba isaga oo aanan planning iyo qorsho aan u haysanin waxaa kaloo ka mid ah farmlandiga beerihii oo dhulkii oo beero laga wada dhiganayo oo aan loo aabayeelaynin muxuu ahaa xaggee duurjoogta ay ku noolaan kartaa xaggee u qorshaynaynaa waxba aan loo aabayeelayna urbanizationku waa wax problem ka jiro settlementiga oo scatteredka noqonayo waxay kala gogoynayaan muxuu ahaa movementigii
xayawaanada iskaga gudbi lahaayeen ama genetically variationkooda ay ku ilaalin lahaayeen ay kala gogoynayaan dhulkina way xaalufinayaan oo gaadiidkii baa ku badanaya lugti baa ku badanaysa rangeland degradation baa jira isagana oo daaqi maalintuu roob da'o meeshuu roobka da'a ayaa muxuu ahaa intaasoo xayawaan lisugu keenaya iyadoo aanan loo aaba yeelin capacity caring capacity oo dhulka u lahaa ama uu asagaba uusan ku xaalufaynin aan loo fiirinaynin increased head size-ka oo livestock macnaha haddii ay kordhaano tirada xayawaankaaga hadduu kordho buqcada aad ku nooshahay waxaa ku samaynaysaa overgrazing wax kasta oo madaxa la soo baxo waad goosanaysaa so geedkii hadduu ahaa geed oo seed ka tarmayo wuxuu u baahan yahay seed majority inuu gaaro haddii kale waxa waaye wuu dhimanaya haddii geedka uu vegetative uu ahaa wuxuu u baahan yahay laamaha cusub ee soo korayo ee photosynthesiskooda fiican yahay in loo daayo waqti si uu geedku u noolaado haddii kale geedka uu dhimanaya illegal wildlife trade-ka waana ka soo hadalnay dhibaatadiisi iyo waxa oo jiro waa one problem illegal charcoal production evergreen forestigi iyo woodlandigi dooxada jubba waxa waaye waa la xaalufiyey wax ka jira male geedka marka aa xaalufiso xayawaankii dependentiga ku ahaa geedkaasi meeshuu ka baxaya isagana haddii uu ahaa mid oo meeshu ku dhalayay ama mid daaqayay labadaba waxa waaye meeshay ka baxayaan waxaa kaloo jiro waxaan la yidhahda invasive specieska soo gelayo waddanka bannaankiisa ka imaanayo ee aanan lahayn sida prosobiska ama calagrobka partheniumka oo la yidhaahdo keligii noolaha ya oo xagga u badan waqooyiga iyo tanzaniumka oo ilaa iyo webiga shabeellaba laga helo all of these waxay ka imaadeen latin america waddanka yagana waxay ku hayaan khatar badan bay ku hayaan waxay bedelayaan very simple tusaale ah magaalada xamar markaad ka baxdo xalana u baxdo oo jasiiro u socoto waxay noo ahaan jirtay meel lowland grasses ah oo badda iyo adiga qofka badda ku jira iyo qofka laamiga maraya ee isu jeedi jireen xayawaano shimbiro badan oo kala gedisan ay ku noolaan jireen maanta dhulka dhan isagaa qabsaday waxa waaye qof kale inuu ku noolaado uma ogolo meeshaas wuxuu ka saarayaa geedihii soomaaliya ku gooniga ahaa oo meesha laga helayay way dhimanayaan way ciribtirmayaan xayawaanadii meeshaasi oo u gooniga ahaa ee soomaaliya keliya laga helaan way ciribtirmayaan waxaa kaloo imaatay wax la yidhaahdo climate change climate change waa isbeddel cimiladaani isbeddelkeedu waxyaalo badan baa ka hoos garaya laakiin waxay keenaysaa xayawaankii inuusan temperaturkii ama qawowgii uusu adkaysan karin oo environmentigii uu ku bulaali lahaa ama uu ku tarmi lahaa inay isbeddesho sidaas awgeedna asaga meesha oo ku dhinto ama in la waayaba ecosystem serviceka waxyaalihii ka imaanaya pollinationka ka mid ah haddii maanta 300 oo geed oo Soomaali ah oo ku tiirsan in muxuu ahaa faxalkooda isaga gudbiso shinnida haddii meesha shinnida laga saaro geedahaas oo dhanba waxa way taran ma helayaana waxaan rabaa inaan maskaxdiina mar idin celiyo markaan 200 sano gadaal haddaan u noqono Soomaaliya waxay ahaan jirtay masawirka dhinaca oo bidixda ah waxay ahaan jirtay meel sidaan oo kaleeta ah oo forest ah oo geedo leh oo dadku ku yar yihiin oo xayawaanadana ay ku badan yihiin laakiin hoos markaa fiiriso waxaa arkaysaa geedihii sidaan u jarnay iyo dhuxusho oo aan u suuq geysanayno oo aan uba yeelaynin geed haddii la gooyo waa in geed la abuurtaa si berita muxuu ahaa dadkii kaa dambeeyey ay geed u helaan laakiin haddaad tiraahdo maanta anu keligayaan sorry ani keligayaan nool qof kale ma noolaanayo waxa waaye dhibaatadaasay leedahay marka dhulkii wuxuu noqonayaa dhul geedihii laga qaaday oo ebera oo maran xayawaanadiina way ka maqnaanayaan oo way ka baxayaan wax ku noolaanayo meeshaas ma jiro marka wax yar waxaan idinkugu darayaa waxa ay qabatay Somali Wildlife and Natural History Society maxay qabatay ilaa haddeertaan ujeedadeeda iyo missionkooda waxa waaye in ay dadku ay fahmaano deegaanka ay ku nool yihiin iyo waxa kula nool ayaa muhiimaddu ay tahay sidii loo badbaadin lahaa
keligidisnaanta noolaha waxaasi si berito marka waxaana samaynay data bank oo flora of Somalia oo digital form ah ayaana samaynay e-library oo literatureska of Somalia fauna from 1854 to 2000 baan libraryada adduunyada ka soo aruurinay waa wada iskaan garanaynaa waxaan ka dhigaynaa digital library ayaan u samaynay waxaan samaynay revision of Somali birdiska checklistigooda ninkii ugu dambeeyey wuxuu sameeyey 1998 ayuu soo saaray sidaa la socotaana taxonomiga waa isbedelayaa marka wuxuu soo baxayaa reportkani 2021 ayuu soo baxayaa bird of Somalia and their Latin name demystified dhalinyarada yaryar ee soo socoto waxaan rabnaa maadaama aysan Latinka iyo Greegi ee waxba ay iska garanaynin inay fahmi karaano macnaha shimbirihii magacyadooda iyo waxa lagu yiraahdo inay fahmi karaan marka waxaan simplify gareynaynaa ama aan fududaynaynaa inuu qofku fahmo magacani geneska iyo specieska waxa isku rakiban sidee isugu rakibmeen sidee la isu keenay muxuu ka taagan yahay muxuu yahay inaan qorno is in preparation wasaynu ku socdaa collection of waxaan samaynay vernacular birds of Somalia Soomaalidu maxay shimbiraha u yaqaanin ilaa 300 nooc ayaan haynaa oo magacyadooda ah oo aan doonayno inaan ku soo publish gareyno mustaqbalka hadduu eebiyara si dhalinyaradu ay uga faa'iidaysato cashirkaygu intaasuu ku egyahay waa mahadsantihiin time badan haddaan idinka qaaday I hope hello هذا professor waa screen share iska dami professor Usman aad u mahadsan tahay waa kaaga mahad celinaynaa lecture-kaaga quruxda badan aad nala wadaagtay waqtigan kuugu tala galnay waa waqti badan aan ku darsatay laakiin waa kuma xasuusino waa aniga waxa iska soo qaaday inaan ahay dadka meesha ku jira marka waxaan dareemay ama aan dareemayna inuu yahay maxaa la yiraahdaa ii sheegeen lecture-ka inuu aad inuu xiiso badnaa oo haddii dhaxda lagu joojiyo micnihii iyo muhiimadii ay naga kala go'i doonto marka qaybgalayaasha waa ka raali gelinaynaa haddii waqtigii aan ku balannay ama aan hadaaya sheegnay inaan professorka siinayno haddii aan ka basanay sababtana waa sidaan sheegayo maadaama lecture-ku uu ahaa wax iswada saameynaya oo fahamkiisa isku xiran yahay marka waxaan rabaa markaa inaan siiyo dadka ay gacmaha u taagan yihiin hadduu iba ka raali noqdo oo su'aalaha raba inay professorka weydiiyaan professor su'aalaha lagu weydiin doono haddii la idmo waxay la tahay inaad nood garaysan doontid saddex qof aan u soo daynaa haddii la idmo 3 qof markiiba 3 qofood ayaan ku soo dayn doonaa su'aalaha waxaan rabaa intaan kasoo qaybgalayaasha kale u gudbin anigu inaan su'aasha kuwaad weydiiyo sidaa sheegtay ama lecture ku jirtay xayawaano tiro badan ayaa ka dabar go'ay dalka Soomaaliya dabcan xayawaanadaasi dunida kama dabar go'in ama ma dhimanin oo Soomaaliya kuma dhimanin dagaaladii iyo maxaa la yiraahdaa ii sheeg iyo colaadihii meesha ka socday iyo ugaarsigii lagu kacay iyo maxaa la yiraahdaa ii sheegeen habitatkoodii oo ka waayeen ama dib ku noqday Soomaaliya ayaa keenay inay u gudbaan wadamada dariska oo wadamada dariska ay wada galeen marka ma jirta sharci caalami ah oo laga yaabo in xayawaanada inaan dib u soo ceshano oo maxaa la yiraahdaa ii sheeg aan heli karno haddii ay noqono inaan ku istaagno lagu helo dawlad aan helno xoog leh oo institutionka dhisan yahay sharci caalami ah ma jira maadaama xayawaanadii annaga waddankeena ku noolaa jiray ay dariska u tallaabeen oo aysan ku dhiman Soomaaliya gudaheeda halkaasna hadda ay ku nool yihiin oo suu inta loo sameeyey aysan ka soo bixi karin su'aashaas aan rabaa inaan horta anigu ku bilaabo kadib dadka aan rabo inaan u gudbo ay u taagan yihiin maxaa la yiraahdaa ii sheegay gacanta waxa ugu horeysiinaya qofkii ugu horeeyay oo soo taagto gacanta Cabduqaadir Shukri qofka igu qoran tahay ayaan rabaa inaan ugu horeysiyo Cabduqaadir Shukri السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دكتورك آدم ومهد علنا يا بروفيسورك يعني كوحي سؤال ما هو اسكا كومنتي دكتورة maxaan ku dhahay 2008 2009 waagi qixi badnaa uu qabsanayay dadkii gaan ahaan ku noolaa magaalada Muqdisho ayaan waxaan u qaxnay degmo oo Madiina korkeeda ah degmadaasi dhul iska banaan ahayd shimbiro aan weligeed ku arkin noocyadooda ayaan meesha ku arkay bilooyin kadib shimbirihii waan waayay
marka anoo weli su-aal taas igu soo laalaabato shimbirahaas iyo noocyada u yaaleen ayaan aljaziira maalin dhexdaasa waxaan ka arkay iyadoo ka hadlaysa shimbirooyin khaas u ah caalamka waxaa ka mid ah marka shimbirooyinka aan xaafadayna ku arkayay ayaa waxay dhahday wuxuu khaas u yahay geeska afrika marka taasi waxay igelisay laftirkeeya arrin fikir ah shimbirihii muddooyinkii dib waan waayee talow halkee aadeen halkee u baxeen marka waxaa mar walba hubaal ah markii dhul cidla la soo dego geedihii maxaan ku dhahaye geli jireen ama dhulkoodii maxaan ku dhahaye la xaalufiyo way sii socdaan ilaa marka dambe Ethiopia u gudbaan ama Kenya ama ay sii dhaafaanba Abdulqaadir waa maasan tahay commentigaaga waa hadii su'aalaha qabto hore u gal may wax su'aala ma qabo aniga kaliya intaasan baraarujinayo kaliya nuqdada labaad inaan ku daray waxay tahay professor kula tahay in lagu baraarujin karo manahijta Soomaaliya aniga Soomaaliya wax soo bartay dugsi dhexe ilaa heer jaamacad weligeed meel xayawaanaadka iyo waxyaabaha Soomaalida ay leedahay looga hadlayo ma arkin yani ka markii ardada leeyahay kula tahay arrin wanaagsan inay tahay ama in la geliyo manahijta Soomaaliya siba maadooyinka cilmiga bulshada la yiraahdo kale ma santiin هذا ما سنت عبد القادر هذا ما سنت مود كلها وعارف إنه سي النصر قف كي يقرنتها النصر قف كي يقرنتها وراء قل نصر مود كيس كقاد وراء قل برامجك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمانتي وإذا والسلام يا بروفيسور كنا والسلام يا لبسوا على لود بانقبة سؤال شيء دكواد واحد هاي سيدي بان أصلا نولين كرنا friendship كي عم بصاحبتي نمدي كده حيصير بالآذن كي يبدأ كا ما داموا أو سومالي دو أنا ما تدقان كوحو يا أهمية دولي هيبقى أنا كبر ركسنين sidoo kale sidee baan u kordhin karnaa aqoontii dhalinyarada ama ubadka yaryar ee kala dhaxaysa deegaanka lana caruurta maanta amba dhalinyarta maanta ka caysa 10 geed hadaad ku tiraahid magacaab 10 geed ma magacaabi karaan 10 xayawaan ma magacaabi karaan sababta oo ah waxa saaxiibtinimadii deegaanka iyo bilaadanka ka dhaxaysa meesha ka baxday taasi waa su'aasheeda koobaad talabaad doonay professorka inaan weydiiyo waxay tahay deegaanka markastoo la ilaaliyo amba quruxdiisu fiicnaataba creativity-ga amba curinta uu qofku yeeshaa saamayn may ku leedahay ma garanayo professorkayna wax fiilkiisa related ah la tahay labadaas su'aalood baan qabaa aad iyo aad baad mahadsantiin nasr hada uma santahay saddexda su'aalood professor Usman waxaan rajaynayaa inaad garasatay ku soo dhawow aad u mahadsantahay waa su'aalo muhiim ah tuuxu markii ugu horeysa adigu waxaad tiri muxuu ahaa xayawaanada qaxootiga ah ee baxay waddan ka baxay sharci ma jira oo waddanka dib ma loogu soo celin karaa marka hore waxaan nagala rabaa inaan fahamno xayawaanku waxaa loo qaybiyaa laba nooc one waa cosmopolitan oo waxaa laga helayaa meel kasta aad tagto dawaco meel kasta way joogtaa libaax meel walba waa joogaa muxuu ahaa tukaha meel walba waa joogaa midna waxa waaye endemic waxaa laga helaa oo keliya buqcadaas uu bartay uu degan yahay uu ku bulaalay oo meel kalena lagama helayo marka haddii xayawaanku uu yahay xayawaan cosmopolitan ah sida maroodigoo kaleeto wax dhibaato ma jiro waxa waaye waxaanu tegi karnaa Kenya inaan tagno baan hal family oo maroodi ah ayaan translocation ku soo samayn karnaa waxaan ka soo raran karnaa family oo male iyo female iyo caruurtiisi waxaan keensan karnaa seeraha anaga marka aan samaysano kadibna isagaaba iska bulaalayo ya oo la badbaadiyo isaga iska bulaalay laakiin midka oo endemic ah hadduu ka lumo waxa waaye qofku soo celin karo ma jirto sida la socotaano adduunyada maanta waxa ka jirto wax la yiraahdo zoo-yada waxay maanta hayaan genetic resource-kii ee adduunyada ka dhamaanay oo hadda fiiri gumburiga markaan fiirino dameer oo Somali wild ass waxa laga helay hadda Somali uu ka cirib tirmay oo waxaan aaminsanahay inuu ka cirib tirmay haddii aan doono inaan dib ugu soo noolayno waxaan tegaynaa Basel Germany aan tegi karnaa waxaan tegi karnaa Mareykanka Faransiiska waxay haystaan sambalis oo hadda ka hor ay aruursadeen 1970 ee zoo-yadu ku hayaan ay barbaariyeen kuwaas dib loo soo celin karaa genetic macnaha conservation marka la yiraahdo waa laba nooc
in aad meesha uu ku noolaa baalka ku ilaalisid iyo inaad qaadatid oo meel adiga aad controli kartid aad ku haysid. marka xayawaano badan oo Soomaaliya endemic ku ah banaanka ma jiraan. nasiib darrada waxa waaye xayawaanada Soomaaliya endemic ku ah banaanka ma jiraan. haddii banaanka loo saarane waxaa dhibaato ah in aysan ku bulalaynin. very simple waxaa dabashay Spikes gazelle deerada oo Mareykanka hadda ka hor la geeyey 1970 la geeyey ilaa iyo hadda waxaa ku dhacayo waxa la yiraahdo inbreeding. inbreeding ku dhacayo oo problem waxa waayo oo genetically oo offspring ay iska dhimanayaan. marka sidaas awgeed waxa waaye mid kale bayra ee waqooyiga laga qaaday dooxa la geeyeyna waxa waaye waxaa ku dhacday markay ilaa iyo 50 ay gaareen waxaa imaaday cudur oo weligoodaba aysan dhulkooda ku arki jirin oo jirkoodii waxooda aqoonin oo hal habeen oo baabiyey. marka tuuxu waxaan leeyahay taadu waxa waaye way fududahay hadduu xayawaanku uu yahay mid meel walba laga helayo waa la soo celin karaa. wax dhibaatana ma jiraan. bilateral relationship loo baahan yahay markaas oo labada hay-adood wildlife ay ka wada shaqeeyaan iyo dowladii oo bilateral agreement inay galaan. Cabduqaadir wuxuu yiri 2008 ilaa 2009 waxaan tagnay meel oo banaanka magaalada Xamarka ah. waa muhiim waaye su'aashaasi waxay muhiim u tahay planning, city planning ay muhiim u tahay. qofka markuu city planning samaynayo maaha inuu geedaha dhan dabada ka xaaqo. sababta geedaha markaad ciidda ka qaado waxaad nabaad guurisay dhulkii oo dhan baa nabaad guurisay. xayawaanadii meeshaas ku jireen way ka didayaan. laakiin haddii plan la sameeyo oo geedo la reebo meel ay ku gabadaan xayawaanadii loo reebo shimbirahaasi way nala joogi lahaayeen oo waadna arki lahayd mar waliba. laakiin waxa waa guryihii madaxa lasu saaray waa la isku dhadhajiyey meel geed lama abuurin wax walba jiingad caday noqotay dhulkii adinkaa qabsaday. xayawaankii muxuu wax ka cunayaa geed iyo wuxuu u baahnaa ama waa seed eaters oo mir bay cunaan ama waa insectivorous oo cayayaan bay cunayaan. labadiiba haddii meesha ka baxaano iyagana way ka baxayaan meesha ma imaanayaan. midda uu ku daray waxay ahayd manhajku waa wax muhiim ah. waa environmental education waa loo baahan yahay ilmaha oo primary schoolka ah in looga soo bilaabo magaalada ay degan yihiin hareerahooda geedaha oo muhiimka ah, geedaha waaweyn ee commonka ah, xayawaanada commonka ah, shimbiraha, xamaaratada, waxaasoo dhan in magacyadooda Soomaaliga Englishka waxaasoo dhan la baro si cunugii uu ogaado waxaana inay wax oo deegaankiisa ka mid ah ayeen oo mas'uuliyad ay ka saaran tahay inuu ilaaliyo. taasina waxay u baahan tahay wasaaradda waxbarashada iyo barbaarintu inay ku baraarugto. ama waxaa la samayn karaa waxa la yiraahdo zoo oo xayawaanada lagu kaydiyo ilmaha lagu baro conscious looga dhigo in ay wax fahmaano. waxaa kaloo jiro muxuu ahaa museumku waxa waaye waa meel cilmi baaris oo lagu ilaalinayo kala gedisnaanta xayawaanada iyo geedaha oo dhan lagu ilaalinayo. dadkuna ay wax ka baranayaan display ay sameeyaan oo exhibition ay sameeyaan oo ilmaha yaryar oo iskuuleyda kuwa jaamacadaha publica oo dhan oo soo marayo nin walba wuxuu ku gelayaa $2 $3 ayuu ku gelayaa. wuxuu ku soo wareeganayaa wixii meesha la dhigay oo lagu explain gareeyay geographicadooda, magacyadooda, behaviorkooda, food ay cunaano waxa ay iyo ayda ay u leeyihiin ecosystemka. because ecosystemka environmentiga ilaahay wuxuu ugu talagalay wax waliba inay iyagu isnadiifiyaan maaha inaa muxuu ahaa anaga aan nadiifino. wax kasto aan ku soo darno deegaanku waanu kharibaynaa. haddaan bac keenno waxaan kharibaynaa decomposition processki ayay meesha ka saaraysaa. ma decomposition ma imaanayo waxa waaye waa production muxuu ahaa producers consumerska oo herbivoroska iyo decomposerska marka bac ma boosgarayn karaano mana jijibin karaano. marka waxay u baahan yihiin wax organic oo decadable ah oo jijabi karo oo in la isticmaalo oo la yareeyo bacda. marka educationka saasaan uga baxayaa. Nasra waa su-aasheeda aad bay muhiim u tahay macnaha friendship oo humanka iyo deegaanka. anaga bini'aadanku waxaanu aaminsannahay inaan anagu ugu sarreyno adduunyada
oo aan deegaanka sidaan rabno u isticmaali karayno. midda kale waxaan nahay dad ku nool environment oo adag oo abaarta ay soo noqonayso, dagaaladu ay ku soo noqonayaan. sidaas awgeed dadkaygu waxay noqdeen dad opportunistic ah oo ah maanta laa cunaa mooyaane berito maxaan qaban karaa, maxaase ummadda u reebi karaa, maxaan ka tegi karaa ma jiraan. marka waxyaalahani waa waxyaalaha lagu bedeli karo educationka, public educationka oo lagu bedeli karo, oo iskuullada in laga soo bilaabo, workshops in la qabto, seminaaro yaryar, social civic society education la sameeyo, waxaasaa lagu samayn karaa. midda kale creativityga human beingka waxbuu ka qabanayaa, sababta maanta markaad fadhiisata meel doog fiican leh oo xayawaanadii, shimbirihii, cayaanadii, wixii interaction ay samaynayaan, maskaxdaada way shaqaynaysaa, waxaa ka fikiraysaa what is this, why this one is happening. marka waxa waaye absolutely environment beautiful markaa dhex fadhiyo oo pristine ah, waxa waaye waxaa noqonaysaa qof oo waxyaalo badan maskaxdiisa ay ka shaqaysiinaysa. I hope inaan dhameeyo saddexdan. aad iyo aad professor si qurux badan oo soo koobtay. waxaan rabaa markaa inaan siiyo kasoo qaybgalayaasha weli qofka igu qoran tahay Cabdi Axmed. Cabdi Axmed توحو ومهدسنتا هذه هي بهذا هايبت بروفيسور عثمان هذا ومهد علينا ولكجر يو محاضرة آد وقيمة بدن هيد ونجا مقال سومالي دو سياسة دا آد لو دقيقة أقونت كلوان ويرستاي هذا ومهد على إنت سوق مقابسك يمعهد كو وحرا وحير إنا فرصة سيسيد أنا بدنا شاكيرو مع الحس آخرنا يعني بوك وجنرال نوليدج أقرأه في جرمال القرآن في هذا ما وسألها في دمير أما كوبلي مركا عبارة وذا دمات كيا بوك وحاول تجي إني الدولة دبا إني الدبر جو أد ويريها ودن كي أد ويلالس مركا وحاسوس مركا يراي مغربي وأدلي جرني أنا وأنا حي مركا بوق لمي ورقد باراجراف كده ما تمركا مراي وأنا حي مركا المها إيو دليل أد وما دوران حيوان كإيو فائدة ليه إن دكتورك وحاودي له هرت سومالي ما قبتي سياشن ككور بير وحيوانات ولودا وشتى وحول بلقيه لا أنت نوع سومالي كتالي بنان كده هذا يدينكم هاد علينا ومهد سنتي هذا أم سنت عبد أحمد هذا أم سنت هاي waxaan rabaa inaan siiyo qofka igu qoran tahay Cabdalla qofka igu qoran tahay su'aashada hore. السلام عليكم بروفيسور والسلامة مقعي وعبد الله محمد وحارب بروفيسور كنا ويدي له سؤال سؤاشكو هادو حيتاي محيهين فائدوين قارك اي وليهين حيوانات دورجوجتا انفيرمنتي اما ديغانك قاساهان كوا وين سيدا مروديغا iyo kuwa la midka oo aad u waaweyn iyadoo aan ognahay halkii maroodi mise adulti elephant-iga hal mar inuu cuni karo ilaa iyo 300 oo kilogram. su'aasha labaadna waxay tahay ma jirtaa in xayawaanada cuna cawska ka cimri dheer yihiin kuwa cuna hilibka? professorka aad u salaama waa mahadsantiin. Cabdalla aad u mahadsan tahay su'aashada sida quruxda badan u soo koobtay. محمد قلر أروقل. بسم الله الرحمن الرحيم والله مقلة سمع سيفي على لغو مقلة عادي هذا مستين هذا هيبتي بروفيسور عثمان بقى سؤال شهر بروفيسور كويتيو وحويان وحجرت إن بابا أما دبعتها كل عادي حيوان كنت بوقتها قيب وينتهين دتك جناح تبعه oo inta badan u isticmaala inay macaash ka raadiyaan. marka professorka waxaan weydiin lahaa door intee leeg ay ku leeyihiin in xayawaankii ay intii burburku jiray ay ka faa'iidaysteen oo ganacsatadu ay dibadda u iibiyeen in ay ayagu dib usoo iibiyaan oo ay dalka kusoo celiyaan oo ay xarumo lagu xanaaneeyo oo si zoom inay u furaan beer xayawaanaad inay sameeyaan oo ay macaash kale dalka dhexdiisa uga sameeyaan maadaama ay ku faa'iido badan tahay dadka iyo dalkaba. marka su'aashii inta soo koobay
maxamed aad u mahadsan tahay professor kusoo dhawow saddexda su'aalood. Okay, حسنت. وسؤال مهم cabdi axmed wuxuu wareystay muxuu ahaa markii hore inuu fiidmeerta maqribadii dili jireen sidaa la socoto fiidmeertu waxay cuntaa horta waa insectiga ayay cuntaa qaarkood qaarna waa fruitska ayay cunaan oo waxay ka qayb qaataan pollinationka ama faxal gudbinta ayay ka qayb qaataan sida bardaha geedka bardaha haddii la waayo waxa waaye waxaa ka maqan fiidmeer baa ka maqan oo faxalka isaga gudbin lahayd ma lahayn muxuu ahaa zoo 1985 iyo 86 ayaa waxaa la bilaabay meesha ku taalo muxuu ahaa kilometer 7 in zoo yar laga bilaabo 90-gina iyo 91-kina waa lagu kala yaacay xayawaanadii iyo meeshii u dambeeyeen lama hayo dhulkiina haddee degaan buu noqday maanto waa la iska degay dad baa degay marka taasi waxay u taalaa wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa oo marka waagaas mas'uul ka ahayd inay mas'uuliyaddeedii dib u qaadato oo dhulkii dib u furto si uu u noqdo muxuu ahaa wacyigelin bulshada iyo jiilka yar ee soo korayo iyo in lagu xanaaneeyo ama hadda maanta adduunyada dhibaatada ka taagan ee Soomaaliya haysato waxaa ka mid ah wixii la qabto oo illegal oo la qabto meel la geeyo malaha fiiri xayawaan ilmaha yar yar oo jiitaha haramcadka haddii qof maanta laga soo qabto ya meel la geeyo oo lagu xanaaneeyo oo lagu barbaariyo malaha laakiin haddaan zuuga leenahay meelaha zuuyigaan geyn lahayn iyagaasa barbaarin lahaa korin lahaa britane environmentigoodii dib ugu celin lahaa oo production systemki ay dib ugu noqon lahayn wax soo saarkoodii marka wax loo baahan yahay generationka yaryarka ah ee politikada keligeed u ordayo inay iyagana maskaxda kusii qaataano ninkii markaa wax ka qaban kara oo wax ka qabto cabdalla wuxuu weydiiyey faa'iidada gaarka ee maroodigu uu u leeyahay maadaama uu calaf badan uu cunayo maxay tahay cabdalla waxaa ogaataa geedka maroodiga uu cunayo wuxuu kula cunayaa macal mirtiisii ayuu horta hore kula cunayaa mirtaasi markuu cunane wuxuu dhigayaa meel meesha ka fog oo wuxuu u furayaa inuu geedkii tarankiisii ama uu sii fido uu meelo ku sii fido number horta waxa waaye waa dispersal mechanismkii meesha ka jiray waayo horta oo wuxuu kala wareejinayaa cawskii xitaa uu cuno algaduu cuno wuxuu cuno dhanba wuxuu geenayaa meel kale uu sii dhigayaa oo berito roobka markuu ku da'a ay noqonaysa muxuu ahaa meel oo wax ka soo baxaana macnaha caws cunaha herbivoruska iyo carnivoruska keebaa cimri dheer su-aashani waxa waaye markaa fiiriso herbivoruska iyo carnivorusku waa wax isdul saaran rota waa wax isdul saaran in the nature marka la fiiriyo ilaahay wuxuu ugu talagalay muxuu ahaa herbivoruska inay plantiska soo cunaano plantiskina markaa ay cunaano muxuu ahaa herbivoruska marka in the nature marka gudihiisa la fiiriyo oo sida dabiiciga la fiiriyo way adag tahay macnaha in la yiraahdo hebel baa hebel ka cimri dheer oo sababta waxa waaye mid waliba wuxuu leeyahay problem oo asaga soo gaabinaya noloshiisa laakiin zuuyada meelaha qaarkood zuuyada oo la daaweynayo oo wixii ay kala xiran yihiin waa wax mid waliba wuxuu gaari karaa cimri dheer uu gaari karaa oo ninka libaax oo kaleeto waqti badan buu noolaanayaa laakiin najerka markuu ku jiro oo wuxuu gelayaa dagaal u gelayaa wuu dhaawacmayaa muxuu ahaa wuxuu difaacanayaa territorialkiisii dhulkii asaga uu ka ugaarsanayay ayuu difaacanayaa maalintii oo dhan wuxuu soo wareeganayaa derbiga oo hareerihiisa halkaasuu kaadidiisa iyo wixiis isku soo firdhinayaa shiirkaasayto marka kii kaleeto bannaanka ka imaanayay waxa uu iska difaacaya marka dagaalkaas ayaa lafsadiisaba waxay ku koos garaynaysaa in uu noqdo nin muxuu ahaa oo cimrigiisa uu soo gaabto
maxamed galeer wuxuu yidhi ganacsatadii doorka ay ku yeesheen waagii dagaalada horta ganacsado badan baa isku dayey in ay muxuu ahaa ka faa'iidaystaano duurjoogta ay iibiyaano inkastoo culays badan uu ka soo fuulay 2006 ayaan waxaan qoray muxuu ahaa wildlife trade in Somalia oo ugu talagalnay inaan adduunyada ku soo jeedino inaanan waxaani laga ganacsanin oo la joojiyo marka door way ku leeyihiin maanta oo doorna way ka qaadan karaan ganacsatada waagaas wax kaga faa'iiday wax ka heshay maanta inay dib ugu celiso ama seerooyinka cusub oo la dhisayo ama zuuyada la samayn karo inay dib ugu celiso si muxuu ahaa even xitaa waxay hore u qaateen ay dib ugu celin karaanoo ilaahna dembi dhaaf ay wareysan karaan xadgudubkii ee xayawaanada ay ku sameeyeen ilaan diinta islaamku ma ogolo xayawaanada in bahaayinka in la xumeeyo oo muxuu ahaa laga ganacsado oo noloshooda muxuu ahaa la baabi'iyo intaasaan uga baxaya ma aada u maasanta professore waxaan rabaa inaan siiyo markan maxamuud yariisow ku soco maxamuud yariisow muudka waa lagaa qaada ku soco السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آدي آد بأقوم هذا علنا يا دكتور عثمان جيدو أمين وعن أقوم هذا علنا يا لكتر كي صورتها بدنا وعن ربا دور وحيالات بقينا اكتنشو لبس سؤالون دوي دكتور كا دور وحيالات وحوي أرتا واو الصعدة وحن اللي يراهدو دوفينتا أما حالف لوغو هايو دورجوكتين waxaa ka mid ah waa dhaweyta Soomaaliland waxa ka dhacay baasha la yiraahdo barweynta dad baa lagu qaqabtay doofaarka xilliga barcabeed deegaanada Puntland oo joogaan haatan dad badan baa ugaarsan jiray oo helicopter isku ugaarsan jiray deerada saas kala Yamaniyiinta soo qaxday iyo dadyow dalxiisayaal intuba waa ugaarsadaan oo Ramadaankii ugu dambeysay diinko kale waxa la socotaan in waa dhaweyd dhexdaas uu galay qiil oo deegaanada dhan laga xaalufinayay oo la soo aruurinayay oo lacag badan la dhigayay iyadoo la leeyahay waxa ku jira dahab iyo wax noocaas ah intaas kadib waxaan rabaa laba su'aalood oo kale inaan doctorka weydiiyo inta uga xasuusin waxa weeye waxaan weydiinayaa marka waa ustaadi adoo aad u mahadsan institutionkaaga maxaad ugu baahan weyday deegaanada kala duwan ee Soomaalida sida ama xarumihiisa kala duwan maadaama in badan aanan maqal aniga way cusub yahay sidoo kale waxaan weydiinayaa su'aasha labaad oo ah maxay yihiin kaliya umad bargaan duurjoogtan umad bargaan kaliya deegaanka oo khatar sameeyay dagaaladan somehow waxaa jira cudurro inta badan ay u dawargoy karaan doctorku markuu ka sheekeynay wuxuu inoo sheegay xayawaanka la yiraahdo siigo kale inuu u dawargo cudurka la yiraahdo BBR-ta u dawargo'ay 1895 taas waxayna tusaysaa xayawaano badan oo Soomaaliya kala ku nool in ayaguna u dawargoy karaan cudurro noocaas oo kala sida siigo ugu dawargo'ay cudurka jadeecada la yiraahdo BBR labadaas su'aalood baan qabaa iyo baraajinta yar doctorkan aad ugu mahadcelinayaa iimanna waa ugu mahadcelinayaa mawduuca wanaagsan sida uu badan qaad mahadsantiin maxamuud waa maasantahay anagana kaga mahadcelinaa kasoo qaybgalkaaga waxaan siinayaa markaan cabdisamed cumar السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكتورك iyo dhamaan baad haybad aad bari salaamaya دكتورka aad barada mahadcelinaya lecture-ka aad ka qiimaha badan iyo baraarujinta aad u wanaagsan waqtigeeda timi inta markaan ka gudbo دكتورka waxaan weydiin lahaa oo laba dhinac taabanaysa oo ku saabsan environmental destruction iyo deegaan baabiinta iyo xaalufintiisa دكتورku hadda wuxuu yar tilmaamay oo wax ka yar dhawaajiyay geedka la yiraahdo garawaaga ama la yiraahdo garawaaga la yiraahdo oo maartay deegaamo badan Soomaalida kamid ah aad uga baxa alkaroobka dadka qayb kamid ah u yaqaaniin oo aad dhib inoogu haya runtii oo aad u dhib badan oo deegaanka iyo baabiinaya iyo inta u dhowba dhirtu ka soo baxaan
marka doctor wax tala ah oo ku saabsan geedka iyo qaabka la sii qaban lahaa inkastoo aad u faafay oo uu aad u badan yahay institutionkaaga iyo maaragtay qoryihiina aadka ugu hawlan hawshan bal wax tala ah oo aad maaragtay dhaxalgal noqon karta oo arrintan inuu iskaga joojin karno aad baan maaragtay u filan lahayd inaan helno talabaad waxa weeye xaalufinta deegaanka marka laga hadlayo dhirtu aad bay muhiim uga tahay oo dee wax aad ugu baahan yahay marka dhuxusha iyo waxa la yiraahdo dhuxulaysiga oo aadka inoogu badan oo ganacsigan hadda aad lafdhabara dad ka mid ah dadkeena Soomaalida u noqotay qaabkee baynu maaragtay iyada ku dheeda tale la taaban karo oo gungaara uga gaari karnaa dhuxusha iyo caali garoobka su-aasheedu waa intaa doctorka aad baan ugu mahadcelinayaa iyo bahda kasoo qaban qaabisay wasalaamu calaykum aad aa umahadsantahay cabdisamed waxaan rabaa inaan siiyo markaan amaal cali shire muudgal cabdisamed muudka saar waa mahadsantahay السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله كسعة. السلام عليكم دمان والسلام يا بابي هيلد يا بروفيسور كبا markii taa laga yimaado waxaan ka hadlaynaa xaalufinta dhirta iyo yani xayawaanka sida xayawaanadii inagoo wadankeena hadda burburkii sidii loo galay xayawaan mataqaanaa dadkii burburkii kadib dhashay xayawaan ma arkin waxaa misana ma jirto xayawaanada maxaa professor adigu tala ahaan noo reebi lahayd oo yacni aan bulshadii annaga haddaan ardaynahay ama dhalinyaro ka ahaan aan ku celinaa oo wax la iska gumaysto horta gumaysigii wuxuu nooga tegey xorriyad wuuna siiyey laakiin maskaxda la iska gumaystay xayawaanka wuu naga tegey laakiin kumana baraarugsana dadkeenu yacni inay sameeyaan goobo dalxiis oo xayawaanka lagu booqdo inagoo dhammaanteen intayna waddanka ku nool higsanayna inaan waddamo shisheeye tagno si aan mataqaanaa waxaan waddankeena ku arag aan u tagno oo dhahno waxaas baa waddamada shisheeye yeela oo horumar ay gaadheen dadka caddaanka ah yacni aan ku ammaano inaga dhexdeena maxaa nooga tegi lahayd ka dhalinyaro ahaan oo aad talo iyo tusaale noo reebi lahayd waa mahadsantiin baadayda هذا ما صنتها أمال بروفيسور هل سؤال مقدرة من سدح هذا كودايا كدر سؤاشا وأن نسوي دي بس قرار مركا سؤاش تكون راعنا dadkii gacmaha u taagnaayeen waxa u malaysaa inay intaas ku kaayeen maxaa la yiraahdaa ii sheegeen su'aalaha kalena maxaa la yiraahdaa ii sheeg waa haddii ay soo dhacaan su'aalo kale waan ku weydiinaynaa insha Allah waan soo gabagabaysanaynaa su'aashan waxay leedahay waxaa noo soo qortay fartuun waxay tiri qoraalkay soo qortay waxaa laga yaabaa inuu qoraalka xoogaa wax uun si ka yihiin laakiin kulley waa un fahmi doonta biyo dhaca waxay soo qortay ansarka iyo kadabshiirka Soomaaliya miyay qaas u yihiin marka kadabshiirka waa fahmay kadabshiir waa fahmay kadabshiirka unseerka ay soo qortay marka waa unrayska iyo kadabshiirka Soomaaliya miyay qaas u yihiin marka afartaas su'aalood ayaa hadda haynaa marka ku socon okay waa mahadsantahay maxamed su-aashii ugu horreysay maxamed wuxuu ahaa waa su-aal muhiima wuxuu yidhi baahinta institutionka aad adigu hadda aasaastay marka ugu horreysay institutionkani waxaa la aasaasay 2015 ayaa la aasaasay intii hadda ka horreysayna waxaanu ka shaqaynaynay policygaas iyo data bankigaas iyo inaan ururino laakiin waxaan rabnaa mustaqbalka in maamul goboleedyadoo dhan oo xubin aanu ku yeeshano xubintaasina ay ahaato xubin active ah oo kala talinayso kala gidisnaanta noolaha iyo deegaanka meesha ku nool sidii wax looga qaban lahaa ama seeraha la sameeyo ama hala sameeyo wax la yiraahdo grazing planning settlement planning all of these things ayaa looga baahan yahay Soomaaliya gobol kasta ama state waliba
in uu sameeyo si uu u helo wax kala soocan waxaan isdhexyaaca ah ee isku dhex ordayo oo marba meel uu ordayo oo aan waxba reebanaynin waxay baabi'inayaan deegaankay baabi'inayaan deegaanku waa inuu noo qaybsan yahay waa inaan leenahay seero gu'eed seera jiilaal seera abaareed waa inaanu leenahay all of this seerihi xayawaanku waa inaan leenahay mid lama galaan ah oo scientifically mooyaane qof kale aanan geli karin iyo mid muxuu ahaa dadka dalxiisayaashu ay tegi karaan marka waa taas midiisa midda kale waa sax waaye cudurrada contagioska ah ee xayawaanada ku dhaco livestock ku dhaco waxay u gudbi karaan muxuu ahaa duurjoogtay u gudbi karaan marka taasina waxaa la rabaa in la kobciyo wildlife expert waa in la helaa oo veterinary ka soo baxay iskuullada veterinary jaamacadaha veterinary ka soo baxay qayb ka mid ah wildlife-ka inay ku takhasusaano sida cuduradooda iyo waxooda loola tacaali lahaa marka planning ay u baahan tahay jaamacadahan inay ku baraarugaan inay ku darsadaano ay soo saaraano dad aqoontaas le maadaamaba hadda ay soo saarayaan livestock waxa waaye suuq ayaa xukuma market ayaa xukuma marketkii waxa waaye qofkii markuu jaamacadda ka soo baxo wuxuu tegayaa dukaanu iska furanaya xooluu daaweynaya kanuu daaweynaya laakiin wildlife waxaa u baahan tahay institutiona u baahan tahay therefore waa inaan helnaa institutiono yaryar oo ka dhisan statediyada oo la yidhaahda muxuu ahaa wildlife institutions oo agency wildlife agencies in qolo walba ay samaystaan sorry oo xukumayso national parkski iyo sidii muxuu ahaa loo badbaadin lahaa marka way dhammaan lahayd waxyaalahan oo cudurrada xitaa la isaga gudbinayo marka baashe maxamed su-aashiisu halkaasaan uga baxayaa cabdisamed cumar wuxuu yidhi environmental destructionka waxa garanwaaga ayuu sheegay garanwaaga iyo muxuu ahaa keligii noolaha iyo waxyaalo kaleba waxaa laisku yidhaahdaa invasive species waxay ka soo duuleen wadamo kale ayay ka soo duuleen oo environmentally marka la fiiriyo waxay yihiin waa wax tarankoodu aad u tiro badan yahay sababta waxaa ka maqan biological controlkii ilaahay ugu talagalay meeshaas ay kula noolaayeen way ka soo baxsadeen oo geedkan waxaa laga yaabaa iniintiisu inay cayaano badan ay ku noolaayeen ee population reduction samaynayeen marka maanta marka soomaaliya la keenay population reduction wax samaynayo ma laha oo isagii midda kale waxa waaye waa management yaa loo baahan yahay geedkan wuxuu u baahan yahay management in la ilaaliyo meesha uu ku jiro lana isticmaalo oo pressure la saaro oo dhuxusha laga samaysto oo geedaha alwaaxda laga samaysto oo kuraasta laga samaysan karo oo waxyaalo badan guryaha waxa lagu dhisanayo laga samaysan karaayo iyo in la ilaaliyo mirtiisu inay xayawaanada u gudbin miraha in lasoo ururiyo oo laiska shiito oo markaa xoolaha calaftaas laga samaysto waa meelaha oo ku badan yahay sida somaliland iyo kaleeto waxa waaye aad bay hadda ugu baraarugsan yihiin inay muxuu ahaa ay isticmaalaan oo geedkii ay pressure saaraan uusan markaasi uusan meel fog ku tegi karaynin institutionkan oo muxuu ahaa aan wadnana waa diyaar waaye waa open institution qof kastoo soomaali ah waa dhaxal reeb ya oo aan rabno inaan uga tagno dhalinyarada mustaqbalka ah inay bartaano oo hadhowna iyaga ay hore u sii wadaano oo ahaado mid soomaali oo dhan ay ka faa'iidaysato dhirta iyo dhuxushu waa sax weeye dhirtu waa huga ciidda ciiddu waa meesha nafaqada ay ka timaado haddii ciiddii geedkii ku daboolnaa ama hugiisa laga qaado waxaa ka baxaysa meesha nafaqadii baa lumaysa dabaylaa imaanayso dabayshaasaa qaadaysa biyaa qaadayo waxay noqonaysaa meel aan waxbaba ka soo baxaynin ayay marka noqonaysaa qofku marka waxaa laga rabaa inaanu ilaalino inta dhir ee nagu hareeraysan inta keliya aan u baahanahay inaan isticmaalo ayaa laga rabaa in geedaha laga qaado inta kale waa in geedahooda loo daaya sababta xayawaanaha kugula nool oxygen baa ka helaysaa oo nadiif ah ya oo muxuu ahaa habeenkii carbon dioxide-ka soo saarayso iyo waxaas oo dhan circulationkaas bay ka qayb qaadanayaan marka sidaa awgeed waxa waaye
dhuxushu waa la yarayn karaa haddii laga reebo ganacsiga. sababtoo Soomaalidu waxa ay isticmaalayso gudaheedu ma badna 15 milyan aan nahay oo maantana gaas waxyaalo badan iyo noocyo badan oo dabka lagu shito isticmaal. marka waxaa nagala rabaa oo keliya inaan barano waagii horeeto oo daaq qaranka uu jiray dadku waxaa lagu wacyigelin jiray geed qoyan inaanan la jarin, laakiin laanta qallalan ama laantii ka qallashay in la jarto. geedaha absolutely waxa waaye ecosystemku mar waliba waa isbeddela imaanaya. geedaa qaangaaraya waa dhimana, geed yaraa meeshiisa ka soo baxayo, haddana wuu koraya, haddana mid kalaa dhimanayo. marka geed dhimanayo maba laga wayn karo ecosystemka haddii uu jiro muxuu ahaa balanced oo equilibrium ecosystem haddii uu jiro. waxa waaye mar waliba geedaha qaaraa dhimanaya, ama cuduray u dhimanayaan, ama da'dooda dhammaanaysa, ama muxuu ahaa waxyaalo badan ay u dhimanayaan. marka ganacsiga ha laga reebo inaan dhuxul dibadda waddanka oon loo dhoofinin. su-aasha Amaal haddaan u imaado, waa sax weeyaan. Amaal waa dhalinyaro oo soo korayo, u baahan inay muxuu ahaa ogaadaan hareerahooda wixii ku nool, deegaankooda wuxuu ka mid yahay, resourceka ku jiro, inaa fahamto si aad proud u noqoto. waxa waaye waxaa ku taagan tahay dhul barwaaqo ah ku taagan tahay. uma baahnid Red Sea-ga inaan cross garayno, uma baahnin inaan muxuu ahaa Mediterranean-ka aan ilmaheen ay ku dhammaadaan inagoo helayno dhul 24 saac shaati aan ku gashan karayno, hawe macaan. waxaan idhahnaa dadkii nala shaqayn jiray eedkiyadii markaan iskaga daba tagnay Yurub iyagoo horteyna cararay annagana aan ka daba cararnay, waxay dhaheen wallahi jannadii the lost paradise ay ahayd Soomaaliya, jannaan dhuntay. sababta waxa waaye meel shaatiga aad geed hoostiisa intaa fadhiisato aad ku quraacanaysid, aad qadadii ku cunaysid, oo cashada ku cunaysid, oo go u baahan tahay inaad dusha iska saarto. intee ka helaysa adduunyada? meel kasta haddaa soo marto meelays nimcaa haysanaa, dalxiis baan samaysan karnaa, tourism meelo badan oo waxaa fiican oo tourism in la sameeyo. oo hadda Soomaalidu waxay aadeen adduunkay aadeen, way faafeen, way soo laabanayaan. waxay u baahan yihiin recreation centers, meel ay ku recreate karaan. dhalinyaradii baa u baahan meelay ku sheekaystaan, meelay iska fadhiistaan, geedo hoostooda, geedo muxuu ah waxaas oo dhan in la abuuro. today haddaa wax abuurto, berito waxay noqonaysaa meesha ugu qaalisan ayay noqonaysaa. marka waxaa nagala rabaa oo keliya planning, land survey inaan samayno oo aan nidhaahno xaggee wanaagsan, xaggee biodiversity ku jirtaa, xaggee badbaadin naga rabtaa, oo aan markaas seerooyin ka samaysano. dhulkaasina aan ka dhigno dhul dalxiiska loo tegi karo, recreation oo sustainable ah, oo aanan dhulka la dhibaynin. marka waa waxa oo loo baahan yahay. dhaxalka waxaa ah in aad ka qayb qaadataano muxuu ahaa sida wacyigelinta bulshada loo wacyigelin lahaa, in deegaanka la daryeelo, duurjoogtana la ilaashado. cilmi baarista muxuu ahaa dhirta Soomaaliya la baaro si looga helo manaafacaad oo daawooyin iyo waxyaalo badan oo maanta la isticmaali kara. sidaa la socoto kansarka waxaa lagu daaweeyaa maanta ee caloosha ama mindhicirada ku dhaco, beeyadaa lagu daaweeyaa. in Europe beeya ayaa waxaa loo siiyaa as a tablet, beeya ayaa as a tablet loo siiyaa. annaga intaan iska soo ururin aan jawaan ku shubayna, aan iska gedayna. we have to process, we have to produce muxuu ahaa value addition inaan ku darsano, aan geysano suuqyadaas. daawooyinka marka waxay noo noqon lahayn waxyaalo badan. xabagta, baasha xabagta ah anaga waxa waaye waxyaalo badan ayaa loo isticmaalaa oo additive ah oo Yurub ay u isticmaasho. waxaa nagala rabaa inaan waxaasoo dhan aan baran, waa inaan aqoonta kordhinaa. aqoon la'aani waa iftiin la'aan, horumarna lama gaarayo marka inta aqoon aan la kororsanayno. aqoontana waa inaysan siyaasad noqonino, ay noqotaa different faculties oo loo baahan yahay. baahida waddanka ka jirto maxay tahay? ardadu waa in la jiheeyaa. ardayga markuu dugsiga sare oo dhiganayo waa in la geeyaa zuuga, la geeyaa museumada, la geeyaa meelaha warshadaha, la geeyaa si loo ogaado waxa uu talanteed ku yahay oo hibada uu ilaahay uu u siiyey oo looga horumariyo. oo la yidhaahdo jaamacad hebel aa ku fiicantahay adiga, jaamacad hebel aad, adiga inta aad, adiga waa la hagaa adduunyada.
ilmahooda cunug iska socdo jaamacad iska bilaabay oo hadhow abu adamay dhahay ma jiro qof walba waxa waaye cunugiisa meesha uu aadi doono intuusan dugsiga sare dhammaynin ayuu og yahay marka waxyaalo howl badan baa noo taalo in waana ku mahadsan yihiin muxuu ahaa hybad in ay muxaadaradan oo kale ay qabato oo muxuu ahaa ra'yiga laisku dhaafsanayo qoraalka fartuun haddii aan u imaado kadabshiirka iyo unrayska maya waxa waaye waa common waa cosmopolitanty muxuu ahaa unrayska east africa oo dhan baa laga helaa ilaa iyo waxaa ka helaysaa muxuu ahaa south africa ka helaysaa kadabshiirkana waa saas oo kaleeto isagana meel walbaa ka helaysaa cosmopolitanty maaha waxyaalaha anaga soomaaliya nagu oo nagu gaarka ah waxaa ka mid ah deerooyinka ayaa noocyo ka mid ah jiro sagaarooyinka ka mid ah waxaa kaloo ka mid ah shimbiraha noocyo badan ayaa ku jiro xamaaratada sida hadda uga soo hadloo kale 80% soomaaliya waxa waaye endemic ayay ku yihiin waa ka baxay professor aada u mahadsan tahay waxaan qaadanaynaa wareegii ugu dambeeyay dhanka su'aalaha kadibna soo gabagabaysan doonaa marka waxaan rabaa inaan ku aqriyo su'aalahan oo laga soo su'aasha koowaad waxay dhacaysaa sidatan assalaamu calaykum waa idin salaamay magacaygu waa yuusuf waxaan arday wax ka barta turkiga waxaan qabaa su'aal ah su'aashu waa tan marka ma jiraan dhir ama xayawaano nooga soo biiray dhanka gumaysiga wuxuuna weydiinayaa yuusuf haddii ay jiraan dhir ama xayawaano dhanka gumaysiga nooga soo biiray su'aasha labaad waxaana soo weydiiyey cabdiraxmaan sheekh maxamed oo jooga dooxa wuxuu yidhi dictore sidee ayaa looga hortegi karaa dhibaatooyinka aafeeya badqabka bay'ada oo ay ka mid yihiin kow deforestation number 2 overfishing oo ay sameeyaan maraakiibta shisheeye overgrazing iyo oil erosion ama waxaan ka wadaa soil erosion waxaa laga yaabaa inaa deforestationka iyo inaa hore uga hadashay bal si kooban ayadan haddii laadmo su'aasha cabdiraxmaan u dul istaag su'aasha labaad cabdiraxmaan na soo weydiiyey waxay tahay waa maxay kaalinta ay ka qaadan karaan dhibaatada bay'ada qodobadan hoose number 2 political structure and stability number 2 drought and starvation number 3 heavy rains and floods marka waxay la tahay labada su'aal ayaa naloo soo qoray marka labada su'aal kadibna soo gabagabaysan doonaa haddii la idmo marka labada su'aalood saddex su'aalood waaye laba is saaran iyo halka oo na soo weydiiyey Yusuf rawgal doctor waa gartay aad u mahadsan tahay waxa waaye Yusuf horta wuxuu wareysanayaa maadaama ay xayawaano badan inay ciribtirmeen iyaga xaggooda maxaa nooga yimid markii la fiiriyo inaga hadda Soomaaliya marka la yiraahdo invasive specieska waa badan yihiin shimbiraha qaar ka mid ah ayaa jiro oo dibadda nooga yimid sida muxuu ahaa qooleyda ilmaha ku ciyaaraan oo guryaha lagu haysto ya feral pigeon la yiraahdo dibadda nooga timid iyaga gumaystaha waddanka noo keenay waxaa kaloo jiro muxuu ahaa Spanish sparrow oo la yiraahdo isagana shimbir ah isagana waa waxa waddanka oo la soo geliyay banaanka yimid spikeled pigeons oo iyaduna ay maraakiibta ay keeneen iyaduna waxa waaye waxay nooga timid maraakiibta keentay waxaa kaloo jiro hadda oo ku soo kordhaya magaalada Muqdisho oo waagii hore aanan jirin 80yadii markii aan joogay aanan jirin waxaan la yiraahdaa Indian house crow tukaha madow India ka yimid isagana oo hadda aad ugu batay aroorta hore 4 subaxnimo ayuu qaylo bilaabay waaq bilaabaya oo marka horta jiifkii lagama jiifsan karo secondly dhibaatada uu keenayana waxay tahay waa predator wuxuu cunayaa shimbirihii magaalada ku dhalayay ayuu ukunta ka cunayaa oo waxa waaye nestig intuu tago oo ama meeshii buulalkii ay wax ku dhiganayeen ayuu ka cunayaa oo ka dhammaynayaa marka waxaa meeshaas ka ciribtirmayo magaalada ina shimbirihii kaloo yaryaraa laga waayo ee asaga uu ku bato oo dhashiisana ku bato marka waxaa loo baahan in la kontrolo oo wax laga qabto intuusan populationkiisa aad u badan cabdiraxmaan dooxa wuxuu sheegay
معناها common problems ka jiro keeni kara xaalufinta iyo wax waliba ayuu sheegaya. Deforestationku waa geed dhulkii oo laga qaadayo muxuu ahaa dhirtii, waana waxyaalaha ugu muhiimsan. Dhirtu waa hugii nafaqada. Biotic iyo anabiotic waaye. Abioticadii wixii difaaci lahaa waxay ahayd dhirta haddii meesha laga qaado waxaa lumayso nafaqadii baa meesha lumayso oo ciiddu waxay noqonaysaa wax aanan anfacaynin. Overfishingku waa problemka Soomaaliya maanta ka haysta muxuu ahaa 30 sano oo dagaaladu ay socdeen. Ma laha Soomaaliya ciidamo ilaaliya xeebahooda, kontrolo ka ilaaliya muxuu ahaa economic zoneka aan leenahay inaanan la soo gelin. Marka waa culays aad u badan oo laga rabo dowladda federaalka iyo maamul goboleedyadu inay iska kaashadaan si muxuu ahaa loo helo ciidan meesha kormeero oo ilaaliyo. Mid kale khatarta uu leeyahay overfishingka waxa waaye maraakiibtan waaweyn waxay dhulka ku jidayaan shabaq oo xaalufinaya wixii yaraa meeshii ukunta la dhigayay, wixii kalluunkii yar, wax waliba disartay ka dhigayaan meesha dhan bay ay baabi'inayaan. Marka waa noocaas. Soil erosionkuna waa problem. Soil erosion wuxuu ku yimaadaa waa markii dhirta meesha laga qaado. Haddii dhirta meesha ay taalo waxa waaye waxaa badanaya organic matterkii ayaa badanayo. Soilkii waxay helaysaa difaac ay helaysaa oo roobkii dhibcihii xooga badnaa ku soo dhacayay xawaaraha ku socon lahaa meeshii ay ka maqnaanayaan. Marka soil erosionku waxay ku badan yihiin dhulalka muxuu ahaa oo loobkooda ama joogooda uu kala sarreeyo oo dhirta laga qaaday. Hadday dhir leeyihiin ma jiro. Adduunyada waa aragteen waxaa imaanaya mudslide. Mudslidekaas waxaa keenaya sababta waxaa waaye roobka markuu da'o ciiddii buu qaadaya, ciid kaluu qaadaya, ciid kaluu sii qaadaya, xawaariyaa sii kordhayo, miisaankii baa sii kordhayo, wax kastoo ka hor yimaaday jeexayaan marka ay baabi'inayaan. Yes, macnaha xaalufinta iyo desertificationka policy khasab waxay ku leeyihiin dhibaatay ku leeyihiin oo dagaalada iyo waxaan socdaba waxaa keenaya muxuu ahaa xaalufinta. waxaa ogaataa Soomaaliya 1960 magaalo imisaa deganeed? Very few. magaalada Xamar 100,000 ma deganin. Today 3.5 million ayaa degan. maanta waxaa fiirisaa imisaa settlement oo abuurmaya, meeqaa magaalo abuurantay, tuulo walba meeqaa abuurantay. waxa keliya hadda loo baahan yahay waxay tahay in la limit gareeyo settlementiga oo meel walba iska aadayo oo dhulka xaalufinayo oo keenayana conflict. qolo walba waxay rabtaa inay meel magaceeda ay ku shabaysato iyadoo aanan fiirinaynin dhibaatada deegaanka ee u leedahay. drought iyo starvation khasab waaye. drought waxa waaye haddii circulationkii oo biyihii iyo hawadii cirkii iyo wixii la waayo, geedaha waxay ka qayb qaataan in ay kordhiyaano roobabka. haddii meesha laga saaro abaartiyaa badanayso. abaar hadday badatana gaajaa imaanayso. waa wax la og yahay. marka waxaani waa relation oo isku xiriiro oo isa saarsaaran mar waliba oo loo baahan yahay nimanka policyga iyo muxuu ahaa administrativeka ah in ay planning na yeeshaano, land planning ay leeyihiin oo ay dhihi karaano dhulkani waxaasaa loo isticmaali karaa, dhulkanna kaasaa loo isticmaali karaa, kanna waa reserve oo looma dhowaan karo. marka planning oo loo baahan yahay waay. halkaasaan uga baxaya ku gaabsanaya. Professor aad u maasan tahay. hadday waxaan sheegay inuu roundkii noogu dambeeyay inuu ahaa. marka ii ogolow inaan 2 su'aal oo kale aan ku daro. sababtu waxay tahay waa markii siyaasadda laga hadlayo waxa laga yaabaa qofka hadduu siyaasadda uu ka waayo qofka inuu ka helo. laakiin maadaama scarcity badan ay ka jirto waxaa la yiraahdaa ii sheegeen mawduuc cilmiyana uu yahay. waa ila fiicnaa weyse su'aal la soo weydiiyay inaan ka tago. marka ii ogolow inaan 2 su'aal ku weydiiyo kadibna hadalka gabagabada ayaad haddii ilaahay noogu daba qaban doontaa. Bukhari wuxuu la soo weydiiyey ma jiraan deegaan ahaan ama
markii noolayaasha waddankeena ku nool marka la fiiriyo ama xayawaan ama ha ahaadaan ama non human dhan marka la isku qabto dalkeena xanuuno oo gaar u yahay ma jiraan oo deegaanka uu sababay xanuuno dalkeena bis laga helo oo deegaanka uu sabab u yahay sidoo kale ma jiraan xanuuno haddii waddankeena qofka uu imaado deegaanku uu ku caawinayo inuu qofkaas xanuunkaas inuu ka bogsado ama uu ku fiicnaado su-aashaas waxaan soo weydiiyey Bukhari Cabdisalaam wuxuu soo weydiiyey asagana wuxuu yiri daaweynta xoolaha sidee loo horumari karaa xoolaha daaweyntooda sidee loo horumari karaa waxaan rabaa su'aal aniga dhankeyga inaan ku darsado oo ku soo gabagabeeyo doctor sida ognahay waddankeena waxa ka jira bacaad waxa la yiraahdo ama bacad oo kamid ah environmental features kamid ah marka asaga saameyn intee leeg ayuu ku leeyahay deegaanka ma dhibo ku yahay ma faa'iido ku yahay faa'iidadiisa yaa badan tusaale ahaan waxaan xasuustaa bacadka markii la falo hortiisoo kale markii beer laga falo oo geedihii inta laga gooyo beer laga falo inuu bacadkii meesha ku sii socdo waxaan xasuus u leeyahay 20 sano ka hor meesha uu joogay anigu deegaanka ka imaada bacad weyn ayaa ku yaal 20 sano ka hor meeshii bacadka hadda uu joogay wuxuu joogaa hadda 1 kilomitir meel ugu yaraan ama ka badan ayuu joogaa markii la falo beerta la falo ayuuna ku sii socdaa meelaha aan beeraha laga felin bacadki waa sidiisii marka bacadkaasi faa'iido u leeyahay deegaanka iyo faa'iido daradiisa iyo talooyin ku saabsan saddexdaas su'aalood ku soo gabagabay professor okay waayahay marka horta marka ugu horeyso su'aasha Bukhari oo ah xanuuno oo miyaa jiro waddankeena u gaar ah oo anaga kaliya ugu gaar ah mayo ma jiro macnaha wax xanuun oo Soomaaliya kaligeeda u gaar ah oo meel kale laga helinin ma jiro waxyaalaha commonka oo tropicalka iyo ama dhulalka muxuu ahaa aridka ama safaanaha laga helayo waa isku mid macnaha ama malaariyada ha ahaato ama balhaariyada ha ahaato shubanka waxaas oo dhan waa common disease oo kuleelaha dhulalka kuleelaha laga helo oo ah midda kale waxyaalaha uu leeyahay qofka ma ka caafimaadayaa haddii qof bannaanka ka yimid oo waddankeena la keeno yes cudurro badan oo waxaa jiro oo kuleelka u fiican xagga kuwa neerfaha kuwa neefta asmada waxyaalahaas oo dhan Soomaaliya marka la keeno pollen greenka cudurrada ay keenaan oo hindisada badan iyo oo Europe ama North America hadda Soomaaliya timaado waa ka caafimaadaysaa waa ka caafimaaday secondary waxyaalahan oo muxuu ahaa haweenka ku dhaco oo muxuu ahaa oo hormones disorderka la yiraahdo hadda Soomaaliya imaato oo kalluunka freshka iyo muxuu ahaa fruitska oo freshka cunto waa ka baxaysaa oo muxuu ahaa waa ka caafimaadaysaa marka Soomaaliya waa janno burburtay oo waxaa loo baahan yahay dadku inay fahmaan inay jannadan dib u nooleeyaan maaha in cunug uu nooga dhinto bad anagoo haysano 3,300 kilometer oo bad ah inaan haysano intaasoo dhul ah oo different ecosystem ah aan haysano war dhulkan baa naga badan kuwa soo socdan ay ku noolaan karaan ogaada Soomaaliya waa meesha ugu qanisan adduunka war waxa waaye meeshan Sacuudiga loo qaxayo oo badda cad looga talaabayo dhulka dushiisa waxba ma saarno waa zero kuleel mooyaane wax kale ma leh waxay ku nool yihiin wax dhulka hoostiisa laga soo bixiyey annagana maanta kii dhulka korkiisa ahaa baan ka dharagsannahay kii dhulka hoostiisa ahaa weli ma taabanin cunugu waxa waaye qofku waa in la tusaa waxa uu ku taagan yahay waa inuu conscious u leeyahay uu garanayo inuu nolol halkan ka samayn karaayo marka waxaas oo dhan waxay u baahan tahay baraarujin ay u baahan tahay Cabdisalaam wuxuuna soo wareysay daaweynta xoolaha sidee loo horumarin karaa waa wax oo taasi culeys maanta kama jirto oo muxuu ahaa waxaa ka jira jaamacado badan oo ka ganacsada muxuu ahaa ardada culunta caafimaadka barto laakiin waxaa loo baahan yahay oo keliya in marketka la horumariyo si loo helo muxuu ahaa number 1 xoolo tayo leh oo dibadda loo dhoofin karaayo iyo in la helo daaq ku filan oo xoolahaasayto ay ku bulaali karaan iyo in la balangareeyo jiilaalka iyo guga iyo abaaraha
sidee looga badbaadaa muxuu ahaa xoolaha caatoobaya ama oo luminaya weydkeeda. Tooxo haddaan kuu soo noqdo bacaadka anaga waageenii bacaadku waa minerals waayo horta oo meel ku yaalo mineralkaas oo hadda aan laga faa'iidaysan karaynin oo u baahan muxuu ahaa in la warshadeeyo ya dhirtu waxay wax ka faa'iidaysanaysaa markii organic matter ay tahay oo simplified laga siiyo decomposition soo marto oo mineralization oo markaa biyo iyo mineralska oo geedka saas ugu qaadan karaya. Marka bacaadku mar waliba haddii dhir celisa la waayo wuu soconayaa. Sidaa la socotaba shalambood waxay ahaan jirtay meel bacaad celina loo sameeyey waa la kala reebay oo dhulki waa la xiray. Geedkan caligaroobka la leeyahay lafsadiisu wuxuu nagu soo galay in bacaad celinta lagu abuuro maadaama waagaas aan aqoon loo lahayn muxuu ahaa kala gedisnaanta noolaha iyo sida uu u saameynaya aan aqoonteeda loo lahayn waxaa la soo geliyey waddanka laakiin managementigii ayaa xumaaday oo dadkii waddankii dagaalaa ka dhacay. bacaad celintu waxa weeye macnaheedu waxa waaye waxay dilaysaa kala gedisnaantii noole ee meeshaas ka jirtay suffocated bay ka dhigaysaa oo sunlightkii iyo wixii bay ka reebaysaa. mar haddii sunlight la waayana vegetationkii ma korayso geedkii hoosuu ku qurmaya. marka bacaad celintu waxay u baahan tahay bacaadka meeshiisa in lagu joojiyo geeda lagu tallaalo si uusan meesha uga dhaqaaqin oo inta kalena la fiiriyo kala gedisnaanta noolo ee ku nool. haddii endemic uu ku jiro geeda oo Soomaali keli leh laga helo hadduu ku jiro waa in muxuu ahaa meeshaasi shaqo badan laga qabta si geedahaasi loo badbaadiyo aysan u ciribtirmin. haddii maanta aqoonteeda aanan la haysanin berito ayaa waxay imaanaysaa aqoon oo geedkaas loo isticmaali kara ama daawo looga faa'iidaysan karo ama quud ama wax la cuno looga faa'iidaysan kara ama wixii dharka laga soo saaranayo ama material aan looga faa'iidaysanayo. marka taasna bacadka uga baxaya. tooxo waay Professor aad u maasan tahay waxaan rajaynayaa in si qurux badan u soo koobtay una jawaabtay. anoo aadan kaaga mahad celinaa waqtigaaga quruxda badan ee aad nala wadaagtay lecturekaaga qiimaha badan faa'iidada badan dadka weliba meesha imaaday dad cilmi doona ay ahaayeenoo waxaa laga yaabaa in dadka fikir kala duwan iyo awal laysugu imaado laakiin cilmigu waxa waaye isagu waa cilmi. waxaan rabaa inaan ku siiyo kelmadda xiritaanka ugu dambayntii su-aalihii lagu weydiiyey wixii caawa kaaga baxay maxaa leedahay ii sheegeen dadka wadcigooda haddii aad rabto jirto xog dheeraad oo rabto inaad nala wadaagto kelmadda xiritaanka inaan ku siiyo aan rabaa. ugu dambayntiina agaasimaha macadka haybad Professor Doodisho ayaan ka codsanaya inuu noo soo xiro. marka kelmadda xiritaanka caaway kusoo dhawaab. aad ay u mahadsantihiin. marka ugu horeyso waxaa farxad ii ah in jiilka soo korayo aan waxyar uga bidhaamiyo muxuu ahaa baahida loo qabo in la barto aqoon kala gedisan si waddankani loo horumariyo. waxa waaye dhallinyaradeennu siyaasad iyo business iyo management iyo waxaanan soconaynin ayay ka shaqaynayaan. waxaa fiican marka diversified in laga dhigo aqoonta oo la raadiyo dhinaca sayniska weliba sayniska aan xoog uga shaqayno si muxuu ahaa geedaheenna u fahamno xayawaanadeenna u fahamno cuntadeenna wax soo saarkeenna dharkeenna daawooyinkeenna wuxuuna dhan ay halkaas ka imaanayaan. marka aad idinkaga mahad celinayaa. dhallinyarada su-aalahoodana aad bay muhiim u ahaayeen meelo kala gedisan bay taabanayeen. waxay u baahan yihiin preparation iyo waqti dheer oo lecture kala gedisan ama climate change ha noqoto ama muxuu ahaa biodiversity-ga ama even agriculture-ka xitaa marka la fiiriyo tacabka maanta annaga aan wax tacbanayno beeraha iyaga waxaanu ku wadnaa beertii awoogay uu tacbi jiray 50 sano ka hor ayaan yaambadii maanta la daba taaganaya. wareedhe geedka wuxuu ku koraa minerals uu ku koraa nafaquu ku koraa. nafaqadii haddii xeeradii oo aan maalin walba aan kisti yaroo ku jirto nafaqada kala baxo sanadka dambe waxaa leedahay beerta waa abaar waaye waxba iimagama soo geyn wax ii socdo ma laha. sidaas awgeed waxaa fiican dadku inay fahmaano in nafaqadu ay circulation
ay gelayso oo loo baahan yahay dhulka in la bacrimiyo oo laisku dhafo waxyaalahaas oo dhan waa aqoon loo baahan yahay in la kobciyo oo dhalinyaradu ay ka faa'iidaysato aysan isku mashquulin oo keliya politics waxaa loo baahan yahay few people 5% of Somalia ayaa ka shaqayn karto muxuu ahaa politics laakiin all Somali 70% ma ka shaqayn karayno waa inaan diversified muxuu ahaa knowledge aan raadina jaamacadahana waxaa laga rabaa in ay plan gareeyaan oo qorshe fiican ardada dugsiyada sare ka soo baxayo ay qorshooyin badan oo kala gedisan ay u sameeyaan anina waa idinkaga mahad celinayaa Haybad iyo inta ka soo qayb gashay iyo muxuu ahaa tooxo oo xiriiriin oo ahaa all aad u mahadsantiin intaasaan isku ognahay khayr baan idin wada rajaynayaa waan idin wada salaamay assalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بروفيسور عثمان جدو هذا ما سنتهاي وحان ربا إن نوصو حير مدشة يو لكتر كان يقبض إن يعاوي أقاسمها معد كهيبة دكتور دوديشو أيان ربا إنو نوصو حير عاوي كلن كان هالكان ومرتين نوغوها بروفيسور عثمان جدو وانا واحد اللي نلاياش كلا دواني سوماليا أنا قلت توحو وهذين حريرين نستاذ حسن مدني يعني ما علنيا أو برامج السوق من قابي أو محل هذا إيش كان لا أنتي سايسن لغاية بيني وح فرسمة نجا قدام الهاد إن بروفيسور دودي سودو نوصو حر كلن كان عاوي. ما سنتي حو هذا بالله مجيدنا يا دكتور عثمان جيدو ورنتي ترسي أدو قيمة بدن عاون وجيدي وحرجينا هدي لا يرادو مدان kasoo sheekeynaynay taariikhda siyaasiga iyo siyaasadda iyo arrimaha siyaasadda la xiriira dooda uu caawa noo soo jeediyey ama darsigan caawa uu nala wadaagay dr cusmaan wuxuu qayb ka yahay bal inaan barano dhulkeenna iyo khayraadka ku jira iyo sida uu dalkeenna u qiimo badan yahay haddaan garanayno qiimaha dalkeenna uu leeyahay wacyigeennana uu macnaha inta caawa uu noo sheegay iyo in kaloo badan oo naga maqan oo haddii ilaa yidhaahdo dad kaloo khubro ah ay nala wadaagi doonaan soo dalkeenna qiimo u leeyahay khayraadka ku jira waxaan aad u dareemi doonaa waqti badanna ku bixin doonaa waddankeena inaan ilaashano midnimadiisa ilaashano xasiloonadiisa ilaashano waddankeena ku kalsoonaano dhisano asaga ku noolaano ilmaheenna ku barbaarino intii aan ku fikir lahayn waddanka inaan iskaga cararno inta ku soo hartayna ay ku legdamaan marka intiina nagala qayb gashay aad iyo aad baan idinkaga mahad celinaynaa mar labaad baan waxaan u mahad celinayaa doctor intaan kulankan mid lamida ku kulmi doono عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.